إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan rabnaa inaan ka hadalno barnaamij mowduuc aad u xanuun badan oo ka bedelan mowduucyadii aan ka hadli jirnay kaasoo aan isleeyahay marqaatiga nool inaan kaga hadalno intay nafta nugu jirto intii aan ka ogeyn dhacdadii xanuunka badnayd ee 24 Julaay 2019 maalin Arbaca ah nagu dhacday waxaan rabnaa annagoo dareenkeena ku cabirayno xaaladeena markii waagu noo bariyay iyo markay dhacdadu dhacday wixii ka dambeeyay xaalku sidoo isku bedelay waxay ahayd maalin aad u farax aan maartay ay ahayd maalin aan farxad waagu noogu bariyay markaan habeenkii bisha markay ahayd 26 aan ku wada casheynay gudoomiyaheena gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho guriga Samo hotelka la yiraahdo asagoo dawlad goboleedyada casuumay runtii wuxuu ahaa qof miis walba tagayay marxabeynay dadka goobtaas aan uga soo tagnay waan soo wada ballanay birita inay marti culus ee gobolka Banaadir imaan doonto annagoo dareenkeena iyo fikirkeena mar walba ay ahayd marti gelinta iyo sida maayirka aan u garab istaaglaynay nagu jirto aroorta hore waaga markuu bari gudoomiye Basma gurigeyga ka soo martay waan baxnay aniga gudoomiyaha waxaan tagnay xarunta gobolka Banaadir xaruntii markaan galnay waxaan aragnay meesha laga galo iskaanka ah haweenkii gobolka Banaadir ee degmooyinka ka kala yimid degmada Waaberi Xamar Jajab iyo Xamar Weyne oo banaanka dhooban gudaha markaan galnay gabdhihii aan u tagnay xaaladii aan fiirinana waxaa noo soo baxday banaankii inay dhooban yihiin cid baaraysana aysan jirin oo markaana lagaba maqnaaba iskaanka qofna ma joogin xilli waxay ahayd abaare 8 subaxnimo ku dhow aniga iyo gudoomiye Basmo aadaan u caroonay waa yaabnay gabdhihii meeshay ku daaleen xilligaas gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku sugnaa xafiiskiisa gudaha ku jiray waa soo gudubnay banaankan ka hadalnay Cabdi Xafiid ayaan gudaha kula kulanay aniga gudoomiye Basmo waxaan markaas nala joogtay Caasha Maxamed Sheekh oo kamida shaqaalaha gobolka Banaadir gaar ahaan xafiiska haweenka gobolka Caasha bulsho loo yaqaano Cabdi Xafiid iyo gudoomiye Basmo markii la qeylay gabdhihina banaanka ay ku cabaareen martidina aan isleena Leelo way ku soo dhowda ayaan Caasho waxaan dhahnaa Caasho iskaanka inta tagtid balorado gabdhaha noo soo daa meeshaan dhaxadil rabo baaritaanka hadhow lagu celiyay gabdhaha banaanka laga soo xareeyo askariga heeganka lahaa noo soo baxay kadib markaasuu cararay oo weydiinaba iyadoo uu imaanayso marti qaramada midoobay xilligan maxaa sababay xarunta in la waayo cid wax baarta waxay la tahay waxba la iskama weydiinin siday wax u dhaceen ma garanayno ujeedada waxa ay ahayd ma fahmi karno sababta ay maayirka oo gudaha ku jira iskaanka hal qof oo gabar wax baarta loo waayay gudahan markaan u galnay aniga gudoomiye Basmo ofiska soo fadhiyo miiskii xafiiskiisa oo wax qoranayaan u galnay uu noo istaagay wana salaam ku dhaana gudoomiye maxaa dhacay xaaladda abniga xageeda waxaan ka dareemaynaa habacsanaan markaasuu yiri wax walba way noo hagaagayaan waxaan rabaa yiri inaan baxo oo aan dadka xafiisyada jooga oo dhan hal soo kiciyo soo galaan hoolka la isugu yimaado anaana bilaabay baxaya markaasaan ku dhahnay joog annaga baxaynay gudoomiye Basmo iyo asagoo wada jooga ayaan ka tagay aniga marka waxaan aaday xafiiska shaqadii shaqaalaha xagoodan u leexday xafiiska shaqadii shaqaalahan riixay albaabka ugu xirnaa markaasaan dhahay bismillaahir rahmaanir rahiim maxay tahay sababta xilligan Cabdullaahi Dheere weligii noloshayda ilaa iyo gudoomiye Tarsan waa wada shaqeynayna wuxuu ahaa early person qofka ugu horeeya oo xafiiska fadhiya maxaa Cabdullaahi ku dhacayaan yiri xafiisyadii gala qof walba marka waa ka soo tagay qof walba waxaan dhahay taga hoolka la yimaado duqa marti oo imaanaysa caawa maanta aan iraahday qofna yuusan naga harin
waa inaan hoolka aan buuxino garbaha guddoomiyaha. markaan hoos u soo daadegoon xafiiskayga soo galoon fadhiistay ayaa Cabdulaahi Allah u naxariistee agaasimihii shaqadii shaqaalaha iyo agaasime Xalane ayaa Cabdifataax Xalana noo soo wada galay, iyadoo uu weliba Cabdifataax leeyahay yaa ii yeeray yaa noo yeeray waa ku jiraa daji salaantaan dhahno wuu soo galay. Cabdulaahi oo maxaa kugu dhacan ku risaakay xafiiskaaga? markaas wuxuu dhihi jiray boqoradii Balqiisa, walaashay maanta ma aqaan waan soo dahay laakiin adaa iga wakiila. almii meesha cabaar ku kaftanay waan joognay, waxaa noo yimid ergeyga qaramada midoobay, waxaan ku soo dhaweynay farxad. waxay la tahay qof walba marka barnaamijkan oo aan ugu talagalnay runtii ay naga codsato guddoomiye Zeynab, maadaama ay ahayd ayadu dadka dhibaatada ay ku dhacday, inaan intaan ka ognahay marqaatiga nool u samayno, ogaano, maadaama ilaa hadda wax cadaalada ayna helinin oonan garanayn annaga dhanba qumbuliyadaa nagu dhacday, waxbaa nagu dhacay, maxaa inagu dhacay, maxaan ka baran karnaa, maxay ahayd sababta marka xaaladdu ay isku bedeshay. xaaladdu way isbedeshay. farxadaan ku soo dhaweynay gudaha markaan soo galnay oon ergeygii aan sagootinay oo aan maaragtay meeshaas ay noogu dhammaatay si qurxoon sharaf leh ayaa hoolka xafiiska duqa ku soo wada noqonay. wuxuu ii sheegay ugu wargeliyey inaan maaragtay Mawlaca Macalin Nuur maanta aan tegi doono, aniguna aan ka mid noqon doono, maadaama weligay aan nasiib u yeelan inaan raaco. Zeynab ku sheegtay way ii sheegtaan dha guddoomiye Zeynabna waa ii sheegtay inaan wada bixi doono. guddoomiyaha waa u yeeray markaan ka soo tagay, wuxuu ugu yiri waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo, waxaa samayseen shaqo. waayo annaga maalintii Talaadada iyo Isniinta aniga guddoomiye Basma waxaan isweydiinaynay guddoomiyihii gobolka oo marti imaanaysa oo aan waxba na weydiinin, abaabul male. maalintii inta habeenka cashada aan aadayna ka hor waan weyno guddoomiyaha. wuxuu yiri maxaa dhacay guddoomiye? habeenka gurisamo marka wuxuu yiri waan xanuunsadayo gowsa ay xanuuna calooshana waa layga hay. aniga guddoomiye Basma marka waa isxilqaanay, giftigii rigaaladii aan diyaarinay oo siin lahaa dadka, asagu nooma dirin. dadka aan abaabulnay oon diyaarinaynana nagala muusan hadlin, laana wuxuu ahaa qof jooga oo nool, laakiin annagaba mawduuceena iyo barnaamijyadeennaba aan ku jirinba, laakiin annaga maanan dareemaynin. wuxuu ahaa qof aan weligiis nasanin. waxaan ku xasuusanaynaa wuxuu ahaa qof jecel, very hard work ah, shaqaynaya, harsanaynin, habeen iyo maalin gurigiisa markii la joogana jecel in wax walba lagu wada qabto wadajir iyo talo midaysan. waxaan marka Mawlaci markaan rabay inaan u raaco habeenkii waxaan ku ballanay wiil jantal yiraahdo Cabdifataax xafiiska haweenka ku qornaa cameramankeena ayaan u sheegan ku guddoomiye berrito wuu safrayaa, wiilkan lacagna ma haysto. wuxuu yiri berri subaxii kan subaxii marka xafladda dhamaataan warqadii u soo qaaday. markaas wuxuu ugu yiri warqadii markaan u dhiibay maxaa lacag ugu soo qorweys? markaasaan ku dhahay guddoomiye qof raba waxba ma soo carifto, marka wixii aana siiso ayaa nagu filan. lacag uu qoray $1,500 qalinkii ugu dambeeyay iyo lacagtii ugu dambeysay oo uu saxiixo waxay ahayd lacagtii janto uu qoray. wuxuu ahaa mid shaqaalaysiiye asaga ka dhiga shaqaalo asagoon hayb iyo qabiil midna aan maaragtay dhalinyarada uma fiiri jirinin, laakiin hadba mawduuca uu qofku ugu yimaado ayuu ku ixtiraami jiray. waa tabaynaa, waan weynay, wuxuuna ahaa shaqsi aad noogu weyn. marka intaas ay dhacday anigu hoosaan u dega maaliyaddan aaday. xafiiska maaliyadda markaan u qaada jeegii oo aan maqanaha ayaa guddoomiye Zeynab iyo xafiiskaygay tageen. baabuurtu way bixaysay Mawlaci Macalin Nuur ilaahay ha u naxariistee ayay maaragtay aadeen, anigana nasiib umaana yeelan inaan israacno. annagoo joogna ayaa waxaa isoo wacay Caliyare markuu isoo wacay wuxuu ugu yiri guddoomiyaha ila hadlay, wuxuuna ugu yiri gabdhaha qado lacag u tur qada ay ku cunaan. waxaan aaminay marka aniga marka qadada loo soo dhigay inuu dareemay inaan annaga baahana
soona dhaweynaynay marka wuxuu ahaa qof macallin ah naxariis badan oo aan waxba loo tilmaamin laakiin indhaha ka qiyaasa qofka ka maqan qalbigiisa uu dareemi karaayay qadadii uu cunayay ayuu gartay in gabdhihii qoraxda u taagnaa ayna suurtagal noqonin inay baahdaan lacag $300 ayuu caliyar ii soo tuuray yiri gudoomiyaha wuxuu yiri gabdhaha qadaha lagu siiyo 200 kamida waxaan u tuuray Aamina Gaabay gabar liiraado oo kooxdii fanka loorka keentay $100 maka oo hadda nala joogta ayaan u dhiiban ku iri qada noogu soo samee oo noogu dir maqaayada moolka qada noogu dir qadadii aan loo doonay qadadii aan cunay annagoo qadadii ay inoo taalo oo labadii gabdhood oo basma ay dhashay oo flowerku u sureysaan meeshii fadhino ayaa waxaa dib noogu soo laabtay gudoomiye Zainab gudoomiye Basmo Sabaax gudoomiye Sabaax iyo gudoomiye Zahro oo afartooda hadda laba kamida oo nool ay la fadhiyaan labana ay aqra aadeen waxa xafiiskii la joogay Zahra Maxamed Amiino hadda joogta iyo Mako iyo gabar kale Xabiibo dheer liiraado ayadana maqan Mako marka qadadii noo keentay labadii gabdhood oo Basma waxa naga kaxeeyay Caamir wuu qaaday markay naga baxeen casarkay ku dukadeen afartoodii way isla dukanay waan wada kaftanay waxaan ku yiri maxad mawlici nooga sidaan waxay yiraahdeen 4 jirigaan Sahra waxay tiri 4 jirigaan oo tahliilan ka sidnaa laba kamid ku soo dejinayna cabaar markaan meesha ku kaftanay salaadii ay dukadeen gudoomiye Zainab markay dukatay mid walba markay dukatay kaciisa sabax waxay tiri jawaahir ay gudoomiye maamo na raac waxaan ku yiri waan daalanahay ma idin raaci karo waxaan xasuusanayaa habeennimadii waxay qabatay qandho aad aan u xanuunsaday markaan xanuunsaday oo banaanka la keenay oo wax walba caruurtayda igu sameeyeen aroortii markaan baxay waxay igu yiraahdeen aqli ma saaka inaad meel aado waxaan ku yiri hooyo wax aan ka baaqan karin gobolka ka jiro gudoomiyihii marti culus oo imaanayso waxaan dareemayay daal iyo xanuun ahayay meeshii markaasaan ku yiri Sabaax waxay tiri waxaan rabaa gurigaygii waa diyaar waan dhameeyay waan qalabeeyay gudoomiye Jawaahir ay Isniinta ama Axadda mid ayaan qadan noogu sameyn doona waxaadna taa qofta ugu horeyso oo tusaalaha noo ah oo gurigaan ku casuumi doono Ilaahay u naxariisto maanta way naga hooseeyaan dhamaantood intoodii badnayd intii noolna way joogaan waxa marka ay intaas ay dhacday Zahra Zainab Sabaax dukatay Zahra dukatay markay labadooda dhaqaaqeen Zahra waliba aad u degdegaysay gudoomiyaha degmada Shingaani Zahra marka way wada dhool cadeynayeen way wada qoslayeen way wada faraxsanaayeen salaadana way u dhowrnayd weysadoodana way qabeen agteeda xafiiskayga ku dukadeen gudoomiye Zainab markay salaada dukatay soo kacday ayaa waxaan xasuusanayaa waxaan ku yiri gudoomiye Zainab maanta waa qurux badan tahay marka labiskeeda inta badan duruucda uma badnaa jirin waxay xirnayd dirac maartay aad qurux badan markaasaan ku yiri dirac beautiful qurux badanna waad xiran tahay gudoomiye maanta waxaad iska dhigtay maartay dumar naag camal iska dhigto sida dumarkii ayaad u labisatay bas waan kaftana way baxday basma nugu dambeysay way wada baxeen cuntadeenan cunay intii baastadii aan cunaynay ayaa waxa dhacday jug weyn markii aan wixii maqalna qadar yar oo adigu 10 daqiiqo 15 daqiiqo nagamayna maqnayn markay wax dhaceenba gabdhaha ayaga ugu dambeeyay dadka hoolka galay markii aan jugtii maqalnay anu waxaan u qaataba inay tahay dhinacan Shingaani gurigan soo waca gabdhayga waxaan ku yiri hooyo ma nabad qabtaan markaas ay igu dheen hooyo waa fiicanahay wuxuu dhinaciinaan u maleynaa meelay taa ma garanayno waxaan wacay haddana dhanka waa bari ayaan wacay lambar 4 iyo eriyadeeda war ma lambar 4 maya kadib waxaan maqlaynaa qaylo waxa marka meeshaas nala joogay Maryan macallin oo ayadana goob joog ahayd laakiin aniga iyo Zahra iyo meeshaan fadhinay anigu marka waa soo dhaqaaqay anigoo kabihiiba ka soo tagay haddaan meeshaan fiirinay gaariga gudoomiyaha gobolka Banaadir oo albaabka qab la siinayo gudoomiye Basman ay raacayso dhexda maartay Maryan macallin qaylinayso ayaan soo baxay iridu soo istaagay Zahra iyo Maka iyana way iga sii dambeeyeen iyo Xabiibo dheer
gaarigana wuu baxay marka waxaan isiri bannaankay wax ka dhaceen waa tageen talo maxay iiga tageen gaarigii wuu baxay markaan la simanahay hoolka meesha laga galo xafiiska duqa uuradii iyo qiiqa dad maaragta iyaga wada dambas leh oo aan ka garanayo gudoomiyaasha degmooyinka qaar kamid ah soo baxay maalintaas wixii nagu dhacay waxay ahayn dhacdo aad u xanuun badan intaas kadib waxaan galnay xaalad waxay ahayd farxadii oo isku bedeshay murugo waxay ahayd dhacdo aad u xanuun badan markii waxyaabahaas ay dhaceen gabdhihii Maryan iyo Zahra iyo kora la aaday laakiin aniga waxa miirkayga ugu dambeysay inaan maaragtay telefoonka marka la soo diraan dhaay dhibaato nagu dhacday waa baaba'nay gurmadaan u baahanahay gurmadana loo keeno dhaawacyada marka la soo qaaday oo dhaawacyada aan soo daldalnay oo wixii aan keenay qayrta meel geesan fadhiisay Maxamed Xasan oo asagana hadda nala jooga oo goob jooga asagana uu nala joogay runtii hadayna ahaan lahayn Dalxa iyo Sheekh Umar iyo Maxamed Xasan iyo Cabdi Barre wax badan lama badbaadi lahayn waxa nagu dhacay marka argagax markay wax dhacaan dadku ma jirto meel loo laaban karo haddii dadku ayna tababar qabin xaalad markay dhacdo sida loo maareeyo ayna garanaynin way adag tahay inay ka dabaashaan qofka dhintay wuu dhintay kan dhaawacana already waa dhaawac laakiin noolaha ku dhex jira ma qiyaasi karo qalbiyan marka xasuusatid waayo qofkan wixii ku dhacay midna wuu dhintay laakiin midka dul taagan ama ka badbaaday waa dhibane ilaahay xaalkiisu ogyahay waxay inoo ahayd maalin murugo waxay noo ahayd maalin ay masiibo nagu dhacday laakiin waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan aaminsanahay inaan nahay islaam inaan dhimanayno ilaahay inta uu abuurtay khayru khalqillah nabi maxamed ayaa ugu qiimo badan alayhi salaatu wasalaam islaamka masiibo ka weyn kuma dhicin geeridii nabi maxamed waxaan yaqiinsanahay maalinta xaqa ah oo runta ah oo ah midda dambe oo ah inaan dhimanayno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyada inaan ku waari doonin oo aan ka wada tagayno waxaan dareemayay markaas inaan waxaan la bilaabay la soo daabulo dadkii Maxamed Xasan labada garboodaan qabtay injineer Axmed Day waan soo fadhiisinay waxaa jiray gaari marka ina dhex yaalay oo proofa ma garanayo xilligu noo yimid gaarigii marka waxa dhanka kale ka xigay gaari kale saarifa dhaawacyada sida lagu qaadayo way adag tahay xarunta mayna lahayn goob emergency-ga loogu talagalay ma jirin ambulance inoo diyaarsan ma jirinin waxay ahayd waqti dadku shaqada ay ka rawaxeen oo galab gaaba ummaduna ay guryahooda aadeen waa dareemi kartaan marka anagoo dumara aan haysanin maaragtay waxyaabo badan oo aan isleeyahay haddii ay jiri lahaayeen rug ama goob loogu talagalay in lagu badbaadiyo bulshada wax badan ay idin hagaagi lahaa oo waxaan heli lahayn xataa in xaaladooda dadka dhibaatada gaartay in lagu maareeyo waxaan xasuusanayaa gudoomiyihii ku-xigeenkii degmada Kaxda oo yaala la soo dejiyay ayaa banaanka yaala wuxuu xirnaa dharka tuutaha malaha waxaan isiri waa kuwa idin qarxiye markaan soo qaado oon israacaawiya ayaan haddana dhigaa oon isdhahay waa kuwa idin dilay war maxaad ahayd adigu war ma kuwina dilaa tahay marka mana ila hadli karo calooshu waa go'an tahay asaga dhanba dhiigiisa wuxuu u socdaa si tuba ah bini'aadanimada awgeed ayaan waxaan isiri hadduu yahay kuwa idin dilay xataa hala badbaadiyo si xog iyo wuxuun looga helo waan ku soo laabtay asagoon ila hadli karin ID card ayuu garabka wuxuu ka soo bixiyay jeebka wuu ii taagay haddaan akhriyay waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Kaxda way fiican tahay qofka inuu aqoonsi wato way fiicnaan lahayd magaalada 3 milyan ay ku nool yihiin inay helaan teesar aqoonsi ah si hadday wax dhacaan looga badbaadin karo maalintaas waxa inaga dhintay dad badan oo aad u qiimo badan waxaan ku weynay aqoontii iyo iftiinkii kartidii waaye araggii soo joogga ahaa ee gobolka Banaadir Abukaati Zabriye Cabdi Daahir Cabdullaahi Dheere Xalane waxaan weyne gudoomiye Mahad waxaan weyne Zahra
waxaan weyne sabaax, waxaan weyne caaqil, waxaan weyne shuuriye. waxaa ku dhaawacmay maayarkeennii oo kadib dhintay. waxaa ku dhaawacmay guddoomiye Zaynab oo tusaalaha nool ah. annaguna waxaan nahay markhaatiga nool. waa maxay sababta aan u hadlayno? waa inaan cadaalad helno, waa inaan dareenno, aan baranno, barno bulshadeenna markay wax dhacaan sababtay u dhaceen, maxaa xalku yahay, maxaan ka baran karnaa. in maalin walba aan qof xusno waxa ka wanaagsan xalka xaggee ka heli karnaa, xaggee bay wax naga jiraan, yaana dilay. waa su'aal taagan weli. madaxda qaranka iyo qof walba oo mas-uulana weli laysma weydiinin, layskagamana imaanin. waxaa baxay dhiig, waxaan weynaa dad aad u qiimo badan. bulshada indhaheedii aan weynay, ehelkeennay ahaayeen. waxaa nasiib daraa marka weli inaan ku qanacsannahay qaraxyada iyo dilalka qorshaysan oo qof walbaba lagu dilaayo, laakiin aanan garanaynin sababta ay ugu socoto magaaladan. waana midda haddaan isleenahay waa in looga bixi karo. dhibaato kasta haddii loo helo dad khubro ah, waxay ahayd in loo qabto guddi degdega. waxay ahayd in la helo kiis furan oo aan la xirin oo aan lagu soo gabagabaynin. aadaan uga xumahay markii ugu dambeysay riboodkii wasiirkii arrimaha wasiirka amniga wuxuu ahaa waxa idin dishay gabar xafiiska ka tirsan oo idinku aad keensateen. basiiro kaliya nama dilin. qarax yaa waday, yaa soo dhigay, yaa sababay, yaa keenay, yaa ka dambeeyey, yaa u soo xiray, yaa go'aamiyey maayar xafiiskiisii ku shaqaynayo in lagu dilo. dhagarqabuhu ma wuxuu ahaa midna la nool, mase wuxuu ahaa mid la soo maleegay? ma waxay ahayd dhacdadani wax maaragtay loogu talagalay magaalada caasimadda ee maayarkii waa madaxweynaha labaad ee magaaladani calanka jamhuuriyadda xiran karo? waxaa nasiib darro ahayd shacabka 3 milyana inaanay soo bixin, dareenkooda muujinin, inayna dhihin war siday wax u dhaceen. ugu dambayn ehel iyo qaraabo waxaa lagu dabamaray inaan geelena qalanno, iska cuntayno oo aan la isweydiinin maayirka magaalada muxuu dhintay. aadaan uga xumahay. waxaan rajaynayaa marka barnaamijkan inuu noqdo barnaamij dhaxalgal ah. 50 sano hadduu qaato kiiskan wuu soo bixi doonaa. guddoomiye cabdiraxmaan cumar, injineer cabdiraxmaan cumar cismaan iyo intii la dhimatay ee shuhaadada ahayd berito waa 24kii, maantana waa 23kii. waana sababta aan inaan ka hadalno keentay in aan baroor diiqno, inaan hadalno ma aha macnaheeda, laakiin waa inaan dhaxal u reebno maxaa sababay, maxaa nagu dhacay. waxay ahayd maalin farxada, aad u faraxsanaa, waayo James Swan wuxuu ahaa saaxiibka maayarkeena. wuxuu yiri maanta way iga duwantaa maalmaha kale, waxa ay soo booqanaya maaha wakiil qaramada midoobay, saaxiibkay ayaa guddoomiyay imaan doona. laakiin waxay sababtay inaan annaguna maayarkeena aan ku weyno. ma garan karo masiibadii dhacday, mana ka samri karno sababaha inoogu dhaceenna. midda ilaahay markii laga soo tago waa in la helo kiiskan yaa loo xiray, yaa loo hayaa. dad badanaa loo xiray, xataa nalama update garayna, ma naqaano. wax aan ka barana ma jirto. xaruntii dadka joogay xataa intaan isku nimid maxaa xeeladahoon ka baranay hadday wax dhacaan sidaan isku caawi karnaa, mase sidii maalintii hore ayaan isku daranaa. anigu marka ugu horeysaba ay wax dhaceen waxaan ku fikirayoon iri kaamiradaha, war kaamiradaha. guddoomiye tuulaxa noo yimid. tuulaxow guddoomiye kaamiradaha ha la ilaaliyo, kaamiradaha ayaan lala bixin. ugu dambaynna waxaa layidhi kaamiradihii waaba lala baxayba. anigu marka maanan raacin dhaawicii, maanan dabagelin, waxaan ilaalinayay bal in meeshaan waa la ii diiday, waa naloo diiday, waa nala saaray inaan joogno. waxaa yimid ciidanka haramcad oo farxan qaroon u wato. dhammaanteen aniga gabdhahayga waa nala saaray. xeer ilaalinta booliska aan iraahdee CID-du markay wax nagu dhaceen 20 daqiiqo way nala joogeen, waana loo diiday. ayaga xaq u lahaa inay xiraan, ilaaliyaan, ayagana waa loo diiday. ma garan kara sababtaas, anu ma fahmi karo. markii naloo diiday oo annaga nala saaray, gaari cabdibilaaw niisa leedaan raacay. anigu waxaan tegay godka Jilcow, waxaan codsaday xarunta in dib la igu celiyo. waayna loo soo bixiyey
dadka meydkeena yaala abukaata Sabriyo jooga inta kale markaan Cabdullaahi iyo gudoomiyaha degmada waa bari ciidanka Farxaan soo bixiyay laakiin gudoomiye Zaynab Zahra meydkeeda iyo abukaata Sabriyo iyo barta looga soo tagay inaan galno oo gabdhuhu soo bixiyaan iyo wiilashii waa loo diiday ma garan kara sababta inta kaleba waa la soo bixiyay waa la wareegay goobtii yaa qaaday mas'uuliyadda yaa loo xiray yaa wax laga weydiiyay intaba ma garan kara aniga markaan ku soo noqonay taliyihii maartay taliye kulane iyo aniga iyo Ibrahim waxaan ku soo noqonay xarunta markaan nimid waxa la yiri gala waa galnay xaruntii taliyihii waxa la amray inuu Ibrahim tago kaamirada wax ka tago General Saadiq iyo taliye Ibrahim labadoodaba oo godka jilcu haystay waxay galeen qolka kaamirada marka xilliga la maraayo 4 saac ama 5 saac iyo bar ayaa aniga dusha la iiga yeeray waxa la yiri soo kor daawo meeshan marka daawatid wixii ka soo baxa bas noo sheeg kaamirada la ishida waan daawaday waxa ka soo baxay gabadhii Basiirahayd iyo gabadhii wadi waa la joojiyay ma garanaysaa waana qaanahan ku yiri waa Basiira iyo gabadhii wadi magaceed degan wala sii daayay kaamiradii waan daawaday Basiira iyo gabadha oo iyadu wado waxay ka soo baxayaan xafiiska dhabarka dambe oo duqa markay soo maraan ayay waxay gudbinaysaa Basiira iyadoo wada degan dalxa iyo wiil kale baadiyo la yiraahdo ayaa qol hadda maartay meetingka lagu sameeyo ama shirarka oo yar oo hoola waxa ka soo wada baxaya dalxa iyo baadiyo way eegayaan dhabarkooda dambe inay soo socdaan way hadlayaan marka ayagoo iska sheekaysanay qolkoodii ku noqdeen labadaanna sida u socdeen waxay u galayeen hoolka degan waxay u ekayd marka qof qorshaha wax ka og waayo sida Basiira ayay iyaduna hoogan tahay waxaan aaminay marka hadda markaan kilibka dib u fiirsaday arkayna in maartay hoolka meesha laga galo kaamirad ku xiran tahay kaamirada iska qarinaysay degan way soo laabanay ma garanayo meel ka soo baxayso isla kaamiradu haddana waxaan arkayaa degan oo kaligeeda oo soo baxaysa ayadoo marka ay moodo inay wax sido oo sida u socota markay xafiiska duqa haddana soo dhaaftay hoolka dhexdooda ayay saas leedahay waxbay moodo inay himlinayso meel daaqaday ku laabanay daaqada markay ku laabato ayay haddana leedahay waxbay qaadaysaa waxay u socotaa si degan waxafi ah inay wadana waa dareemaysaa waxbay sidaa way soo gudbee degan haddana mar saddexaad ay soo laabanay ma garanayo meel haddana ka soo baxday waa isla kaamiradii markay soo baxdo wiilka baadiyo la yiraahdo iyo degan way wada istaagayaan muddo 10 daqiiqo ay sheekaysanayaan markay sheekaystaan ay haddana degan baxaysa meel ay aad ma garanayo ugu dambeyn kaamiradii waa la damiyay General Saadiq wuxuu ugu yiri haweenka soo xukuntid Basiira gurigeeda laga rabaa waxaan ku yiri Basiira de agaasimo waaye haweenka maxaa shaqo uga dhigay guriga Basiira maxaa anigay baray waa ilaa waa ina keento baabuurta Cabdibilayaasho banaanka joogo ordo raac lagama yaabo inaan raacan ku yiri haddana waxaan isiri cadow baxsaday armay noqotaa waxaan wacay gabdhahayga gabdha kamida wan la xiriiray waxaan ku yiri waxay deganayd howl wadaag hal raadiyo guriga Basiira waxaan isku xiray taliyaha saldhiga howl wadaag iyo gabdhihii gabar kamida waa la raadiyay gabadhii guriga soo heshay marka hore way soo aragtay way soo wacday waxaan ku yiri waa lagu soo wacay guriga ku laabo gaara lagu soo qaaday Cabdibilaa ciidankay tustay gurigina waa la soo qabtay Basiira marka anigu intaan meesha joog waxaan leeyahay gabdhihii aan weydiiyay waxaan la hadlay Zahra iyo tiimka Digfer joogay Maryan iyo markaasaan waxaan ku yiri wartii yaa arkay waxay soo wacay qayb naafada kamida Basiira lama hayo meelihii aan leeytii gabadhii indhooshaayda miskiintayd meelahan ay ku dhacday war ka fiiriyo markii aan kaamirada ka soo baxay hoolkan galay markaan hoolka kale waxaan arkay dhakada kore wiilasha askartii oo leh war waa taasa madaxa waa la soo dejiyay wax yar oo madaxii iyo timadha dheer oo halkaas iyo daan yar oo intaan leeg oo daankii Basiiro garanayo ayaa halkaas ku soo dhacay marka
basiiro waxay ahayd naafo waxay ahayd gabar aad u active u ah laakiin yaa ka dambeeyay yaa abaabulay yaa matoorka saaray yaa basiiro sababay gaarsiiyay ugu dambeyn inay qaraxdo waaba haddii iyadu ay tahay oo la isku raaco inay qaraxday caddaynu mayno waxaan marka ugu dambeyntii gabadhii guriga basiira la tegay waa la soo helay waxaan sameeyay naafadiyaan dhex galay waxaan ku yiri waa inaan helno basiira qoyskeedii waa la raadiyay hooyadeedii aabaheeda la soo helay waa la soo qabtay godka jilcu waa la keenay dadkii aniga aan u diray ayaa soo qabtay walaalaheeda la keenay ehelkeedii la soo helay aabaheedna wuxuu sheegay inaanba basiira la dhina Maryan la yiraahdo gabadhiisa oo ina basiiraba ahayn intaas wixii ka dambeeyay waxaan sugayna marka cadaalad iyo dad in loo soo xiro cid loo xiray midna meena jirinin kaamiradaha qaybaha aan ka aragnay waa macquul kuwa kale in la qaatay in la damiyay inay haleysnaayeen laakiin maxaa cadeynayo waxaa kaloo yaab ahayd in qayb ka mid ah kaamiradaha ay shaqaynayeen waxaan aaminsanahay marka kiiskan si raxmad leh oo damqasho leh oo maayar iyo garbihiisii ay ku dhinteen inaan loo wajihin aan ugu qabaa waxaana aaminsanahay habacsanaan lama amniga iyo ehelkaba inay timid iyo maamulkaba waxaan rabaa marka inta kale maadaama aan taxliiliyay in badan intaan ka tegay inay ku daraan oo waxaan rabnaa waliba ay documentary kaliya ay noqone in wax laga qoro waxna aan ka barano ilaa ma aan ka helno eedaysane loo soo taaga maxkamad la yiraahdo wuu ka dambeeyay waxaan rabaa gudoomiye Zainab inaan mar kale dhaho gudoomiye waa kaaga mahad celinaya dareenka wanaagsan waxaan aaminsanahay oo xasuusanahay maxaan ku dhahaa ii sheeg ilaahay ha sii caafimaad tamaame walaalkeen gaboose in aan weyna bareelle aan ku qaadno ee albaabkii la jabiyay hoolka gaariga in lagu saaro weli ma albaabka haday wax nagu dhacaan ku qaadi doonaa mise waxaa jira wax service oo loo diyaariyay ayadana bulshadan la wadaagi doonaa lana qaybsan doonaa dareenka dhacdadii dhacday waxaan rabaa ehelada iyo qoyska reer engineer Yariso oo dhamaanteen dhibaatadu markay nagu dhacday ummadda Soomaaliyeed way noo wada damqadeen inta afka Soomaaliga ku hadasha wuxuu ahaa maayirkii loo soo wada tacsiyay dhamaan adduunka qof Soomaali ah ama dawlad haday noqoto Somaliland haday noqoto Djibouti haday noqoto Soomaalida Ethiopia degan haday noqoto kuwa Kenya jooga iyo beesha caalamka iyo cid walbaba wuxuu ahaa qof kasbaday qulubta bini'aadanka naxariis badane aan weynay waqti aan munaasab ahayn ku maqan gacmo aan ku tabayno in cadaalad maalin ay soo qaban doonto oo aan cadaaladaasna ka imaan doonin meel kale ay aan ka heli doono Allah subhanahu wa ta'ala dhiigii injineerka iyo intii la dhimatay iyo dhaawacii bogsooday iyo Zainab oo marqaatiga nool iyo gaboose waxaan rajaynayaa inaanay marnaba uga leexan meelna ilaa aan ka helno dhacdadan wixii aan ku iloobi lahayn waxaan xasuusanayaa hoolka tunnelka markii aan Quraysho gacanta inta ka qabta aan fadhiisiyay dhaawacyadii inta badnaydna aan qaadnay saariftina aan saarnay wiilka gudoomiye ku xigeenka ahay waxaan dardaray gudoomiyaal badan oo socda ayaan soo dhaafay gudoomiye degmada Yakshiid Kaaraan gudoomiyaal badan ka xasuusanay wayna gudbeen laakiin waxaan ugu haray Shoota gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Boondheere gudoomiye ku xigeenka amniga degmada Shibis Maxamed Xasan Dalxa iyo Shii Cumar Cabdi Barre abaalkooda ma gudi karno waxay ahaayeen kuwa soo qaadayay nala daldalayay intaas markaan dhaawacyada qaadnay ayaan tunnelka xafiiska meesha argada hoosteeda ka baxay oo Quraysho aan saas meesha u fadhiisiyay oo dul taaganoo leh sidee wax u dhaceen ayaa waxa soo baxay fiido gudoomiye ku xigeenkii howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir qadar 12 saac iyo waxoogaa inay ahaydaan qiyaasayo
fiidow markaan arkay waxaan dhahay xagee ka soo baxday guddoomiye wuxuu yiri maxaa idinku dhacay nacamti waxay ugu noqotay wax aad iyo aad looga naxo waxaan ku yiri maanaad leedahay maxaa nagu dhacay xilligan oo la baaba'ay oo aan weynay cid noo soo gurmata ma gobolkaad gees uga jirtaa mise waxaa tahay kuwiina dilay miyaad ka mid tahan ku yiri qof aan kala baqanayo ma jirto wuu nool yahay anna waa noolaha markaasuu madaxa ruxay wuuna dhaafay dhaawacna lama qaadin tuulax waa yimid dhanka kaamiradu aaday waxbana lama qaadin wuu baxay isaguna waxaan la yaabay markay wax dhacaan dadku waxa ka baxa ama ka luma qadka waxaan aniga hadda marka aan isweydiinayaa bacdama ay ahaayeen maayaradii ku xigay guddoomiyihii dhinta kadib ma jirto wax kulana oo dhacdada xanuunka badnayd la isugu kaayeeray ama isku waraysanay waana midda hadda Zaynab ay ku dalbatay inaan arrinkan ka hadalno ujeedaduna ay tahay inaan daba joogno yaanu dilanahay yaa dhibka noo geystay Basiira idin dishay Basiira maxay ahayd Basiira waxaan xasuusanaa 2012 ayaan bartay maamulka gobolka Banaadir guddoomiye Tarsan oo maayara ayaa khudbad waxaan dhahay hal lagu qoro wala diiday khudbadayda aniga aan ku qornaa markii la istaajiyaan Basiira oo yeeray ilaa maalintaas Basiira gacantan ku weynay dhammaanteen waxaan ahayn qof walba waxay la ahayd saaxiib dhow waxaan nasiib darro ahayd gabadha la yiri way idan qarxisay maayarku inuu si lacag ay isku daweysay tiri waxaan rabaa dawo laakiin lacagtii dawada aan u dhiibna miyaana lagu dilay ma ayada la dhibaataynayo miskiinta waa qof la leeyahay oo dadku qaar waxay leeyihiin qarux meesha ku diyaarsanaa ma wax irka ka soo dhacaana dilay ma ayada waday ma garan karno anu marka waxaan isweydiiyay waxa jiray ma garan karo buug aan wax ku qoranayo qayb kamid ah waxay ahayd gabadhu dhaaya ma lahayn yaa dhaantadu tumay dhexda suunka iyo xiray ciidamada dhabaha suran yaa dhaafiyo waday siday ku dhaaftay iskaanka Basiira haday naqrixisay qarax ma wuxuu ahaa mid lagu abaabulo hoolka Basiira subaxi markay soo gashay xafiiskaygay tagtay Cabdi Gaas oo kamid ah la taliyaasha duqa ayay wada joogeen way dhararaysay maalmo ka hor waxay iga codsanaysaa Basiira maalmaha soo socda maalin kamid ah inay aniga iyo guddoomiyaha isku kaay rabto waan idin baahanahay kaama dhami waa maxay waxaad aniga iyo guddoomiyaha Basiira inaga rabto waxay tiri ilaa waa idin baahanaa Basiira maayirku wuxuu la gaaray inuu gaarigiisa ku qaado wasaaradda haweenka geeyo sharciga naafada doono wuxuu ololeynayay uu lahaa aan ka shaqeyna Jawaahir Basiira inay noqoto guddoomiyaha guddiga naafada awalna uu wuxuu u magacaabay agaasimaha waaxda naafada gobolka Banaadir nacam waxay la ahayd qof uu arkaayo future laakiin marka dambe waxaana lagu yiri noloshiisi ayada soo afjirto oo Basiira idan qarxisay kulankii ugu dambeeyay ee haweenka dhalinyarada gabdhaha aqoonyahanada oo aan qabnay ayaan fadhiisanay waan joognay wuxuu weydiiyay wuxuu igu yiri Jawaahirey aaway Basiira maxaad ugu yeeri weyse markaasaan ku wallahi guddoomiye maanan xasuusan Basiira waxay ahayd marka Basiiro qof galaangal badan aad u furfuran meel walba wax ka doonta laakiin kaligeed qoyro socday ayadoo qof la fahmi karo maynan ahayn ma lagu dhex jiray oo marka hore miyay shabaab iyo argagixiso ahayd ma xarunta ayaa dhexdeeda duul kala jooga oo laga helay ayadana ma naqaano laakiin Basiiro waxay ahayd qof u roonaa injineerka maalintaas markay wixii dhaceen guddoomiye Zaynab ayaan waxaan ka xasuusanayaa nacam qofka alla jecel yahay
sida uu ilaahay subxaanahu watacaala zaynab iimaankeeda uga dhigay mid marnaba aan naaqusin maalintay dhaawacantay ilay maanta inta ka dhacayso waa qof iimaan badan waa qof tusaale u ah dhalinyarada ama dumarka Soomaaliyeed waa gabar geesi ah laakiin waxa moodaa marka aad fiirisid xuquuqda muwaadinka dhibanaha dhaawac soo gaaray laakiin nool ee raba inuu tuso bulshada inaan wax qabsan karno waayo waxay ahayd Zaynab iyadoo nool inta la loo sameeyo waxay ahayd Zaynab gabar dhalinyaro ah aad u firfircoon mustaqbalkeedana waxay jeclayd inay ummadeeda la qaadato horena argagixisada iyadoo intaan ka yaray hore u dhaawaceen waxay ahayd activist ay ahayd jecel bulshada in loo adeego markuu roobka da'o qofka ugu horeeyo ee isoo waca ay ahayd waxay jeclayd dadka kuwa ugu liita ee u baahan in loo gargaaro inay u gargaarto waxa nasiib daraa marka Zaynab sida gudoomiye Basma sheegtay in fiisadeedu maalin walba ay dhacayso Zaynab ma dhimana way nooshahay laakiin madaxda qaranka iyo maamulka gobolka miyaa ismoodsiinayo Zaynab inay tahay qof aan mudnayn in wax loo qabto mise waxa gaaray ayna practical u arkino ma dareensana waxaan anagu dareemayno Zaynab aan noolaanaysa anu maana lahayn way ashhaadanaysa laa ilaaha illa allah ashhadu laa ilaaha illa allah ashhadu laa ilaaha illa allah annaga marka waa dhimatay Zaynab waa dhimatay ma noola naxam qof noolaan karto oo lagu qiyaasi karo nolol may ahayn alla dilo un baa dhinta argagixis sida noocaas noo gashay wali wayna la nool yihiin anu ma garan karo ma qarshaysana horena waan u yiri mar kalena waan leeyahay ma fahmi karo aniga markaan miir doorsoonano iska qaylinayno wuxuu ahaa iidow ayaa iqaaday garbaduub la igaga bixiyay meesha markaan ku soo noqday iyo markii aan ka tagay xaruntaba mar walbaba waxay ahayd mid xiran oo aan la gali karinin waxaan rabaa inaan mar kale ogaado labadii gudoomiye ee markaas taagnaa maxay u garan waayeen u xafidi waayeen gabdhaha xataa boorsooyinkoodii dahabka fargalada ugu jiray meeshay uga tageen qof isweydiisa xataa ma jirto maxaan ka baran karnaa inaan weyno gudoomiye Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineerkeennii qiimaha badnaa naxariista badnaa aan qofna ku shaqaalaysiinin nabadoon u keenay ku shaqaalaysiya wanaag waxaan hubaa ku dhawaad 27 qof oo xafiiskayga injineerka shaqaalu ka dhigay iska daa umada kale mayna jirinin qof asaga ku hayba oo gooni loogu keenay laakiin markaan u geeyo mid dareema qofkan iyo duruftiisu aha uga mahad celinaya annagu naga dhintay qoyskiisii wanaaga uu ku barbaariyay noloshooda ilaahay subxaanahu watacaala ma ogaan kara siday tahay quluubtooda laakiin xilligan oo kale maanta oo kale waxay noo ahayd maalin aan isleeyahay birito waa 24kii James Iswan inaan soo dhaweyno farxad inaan gudoomiyeeno garba istaagno laakiin 24kii maalin madow oo bar aan naga go inay nagu noqoto gobolkii Banaadir ma wuxuu noqonayaa gabla noocaana ma wuxuu noqon doonaa mid ku xisaabtama inuu wax ka bedelo inaan weyno waxay tiri Zahra waqtiga iyo meesha wax nagula dhaceen waa sax gobolka Banaadir haddii la helo unit shaqaynaya 24 saac shifti galab heegan ku jira ambalaastu taalo caafimaadkeedu u diyaarsan yahay dhaqaatiirtu noo joogto waayo naftan anagu ma lihin saacad walba waxaan safar waana loo iman karaa ma haynaan diidanahay geerida laakiin waxaan diidanahay 2 sano kadib inaan garanaynin wixina dilay oo aanan aqoonin waxaan rabaa gudoomiye Zaynab ugu dambeyn inaan kugula dardaarmo qalbigaaga wanaagsan ee nagu dhiiri gelinaysid oo anigu aan markaan weydiiyo naftayda waxaan ku iraa gudoomiye naso oo isaga tag wadankan iyo shaqadaba iska daa laakiin waxay tiraahdaa maya haddaan ka tagno xageena adeynaa waa sax meesha anu aan ka imid Soomaha waxa loo cararaay Yurub aniga joogi lahaa hadda Yurub macna leedahay marka Zaynab inaan u diro waxa igu kalifayo markaan waayo cid ku ixtiraamta dhibka ku dhacay uga damqata wixii ku dhacay
waxaa kaloo la yaab ah Zaynab inay weli mararka qaarkood lagu soo wargeliyo inay tahay target oo aan securitykeeda baabuurta buruufka dadka ku socdaan aanay ku soconin Zaynab haddana la dhaho saacad walba Zaynab waa lagu dili karaa waxaa tahay qatar oo maxaa loogu sheegaa haddaan amnigeeda la sugaynin qalqal kale Zaynab uma laaba karto laakiin Zaynab waxaa tusaale u tahay bulshada Soomaaliyeed dalkan leenahay dalka annaga iskala dadkiisuna waa annaga waxaan rabaa in badan hadday dadkeena bartaan inaan hadli karno inaan tilmaami karno inaanan baqan in xaqiiqda ka hadalno waxaan heli lahayn cidda wax noo geysatay waxaan fahmi karnaa meesha aan u soconno cadaaladda waa midda qof walba oo bini aadana uu ku noolaan karo waase hadduu jiro sharci sareeyo ah oo soo qaban kara cid walba oo aan tilmaamay waxaan ku tilmaamay wixii aan ka rabay inay ka gaabiyeen waxaan ku tilmaamay in ay yihiin kuwa aan ku tabayno waxa inaga maqan oo ahayd inay noo hiliyaan na garab istaagaan meydkana lala qaado dhaawacan loo qaado cid walba iyo qoys walba wuu ka gaabiyey hadday noqoto familkooda iyo hadday noqoto dowladaba cadaaladuna maalin imaan doonta oo mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم ساعد waxayd 12 subaxnimo ama 5 saac subaxnimo qofka sidoo yaqaano markii aan ka soo degay diyaaradda African Airlines aan imi magaalada Muqdisho oo ka soo kicitimay dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi habeenkii Nairobi waxa la soo galaa saqdhaxa la soo galaa 3 galab habeenimo ama 9 saac habeenimo ayaa airportka la soo galaa marka xoogaa waad dhafraysay intay diyaaraddu kula soo socotay markan magaalada imi degdeg waxaan u holaday inaan seexdo sariirtayda oo nasto maadaama xalay u soo jeeday aan traagna soo ahaa ama safar soo ahaa oo diyaarad soo saarnaa kadib waan seexday runtii gudoomiye Zaynab iyo ilaahu naxariisto injineeriyihiisa iyo asxaabta kale wadadan aad fareen u ahayn bay ahaayeen saaxiib nahay cidna markaa uma sheegin inaan magaalada ka imi way ila socdeen inaan maqanahay waxaan isiri markaad hadhowto toostad kulay asxaabtii aad wici doontaa anigoo hurda ayaa waxaan gabar baa ii soo gashay waxay igu tiri miyaanad ogeyn waa la baaba'ay inta hurdadiiga kicisay maxaa dhacay Zaynab jaxaabsi way dhimatay injineeriyihiisa uu dadka way dhinteen balaaya dhacday waa la baaba'ay yacni ma sugin inaan dharkii aan ku seexday wixii inaan iska bixi markay tiri dadkii baa dhintay facebookna inaan galo markiiba maan haleelin waxa la yiri facebooka lagu soo qoray markiiba waxaan eersaday xagga iyo isbitaalkan tagay aaga isbitaalka dhan wuu xidhnaa kaarkeyga xildhibaannimadeen sitayna wuu iga lumo Nairobi iga lumo kaar ma sidanin waxa laga qabtay sweer adag baa laga qabtay maadaama gudoomiyaha uu isbitaalka yaalay isla maalinta dibkiina uu dhacay lama geli kareynin isbitaalka meeshii man iska taagnayn mar hadaanad geli kareynin de aanad u helaynin access inaad gudaha hore gasho waa iska murugooda waa iska calool xumooday because aniga engineer ilaahu naxariisto yariiso waa wasiirkeygii wasaaradda warfaafinta wuxuu ahaa qofan aad isugu dhownahay oo aad saaxiib u nahay runtii markaan kuu sheegan aniga familkeyga xamar ma deganayna aabahayo kale igu ahaa magaalada wuxuu ka mid ahaa dadka magaalada igu hay aadkayga warqabay haddii dib igu dhacay haddii dheef igu dhacdaba dadkaan la tashan jiran saaxiibka ahayn buu ahaa adigu tiiraanya halkii waa iskala fadhiistay waxba ma qaban karaysid qadarta alla markay dhacdo waynaad ku qanacdaa oo tidhaahdaa inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun halkii markaan acbaar iska fadhinay oo nala sii deyn waayay oo ciidamo badan meeshii la keenay oo ammaankii la adkeeyay dib baan isaga soo noqonay habeenimadiiba haddana soo noqonay maba la geli karaa la yidhi subaxii dambaan marka lay ogolaaday inaan isbitaalkii dadkiiba loo ogolaaday inaan isbitaalkii gallo runtii qaybta degdega buu ku jiray gudoomiye injineer Yariis Allah naxariisto maan geli kareen laakiin waxaan u tagay Zaynab oo xaaladda ay ku jirta ay tahay xaalad aad u adag markaas laakiin alxamdulillah miyirkeeda qabtay qof iimaan qabtan ahayd oo aan mar qodho miyir doorsamin tawxiidka ilaahayna carabka ku haysa markaan dul istaagnay ku tiri walaal qadar ilaahay baa igu dhacday waan calool xumooday wallahi markaas ma garanayo dareenkaygu sidoo ahaa dib aan iskaga soo noqday waxaan u malaynay inay tahay marka maalintii la qaadayay banaanka uga baxa baa la yiri qalbigaygu mar labaad waxay siin waayay inaan Zaynab intaan ku noqdo aan eego oo aan jirkeedii iyo wajigeedii aan dib ugu noqdoon eego waan arki kari waayo damiirku way siin waayo runtii
haddana may noqonin mid niyad jabtay intii dhimatay way dhimatay qadartaa ku dhacday waqtigoodina wuu dhamaaday markay caafimaadka kasoo noqotay haddana waxay noqotay mid halkii kasii bilowday shaqadii runtii mararka la kaftamay waxaan ku dhahay Zainab haddaan anu adiga ahaan lahaa ma shaqeeyeen wadankana dib uguma soo noqdeen waan iskaga carari lahaa because xanuunka kugu dhacay markaas waxay ku tidhaahdaa weligaa ha isdhiibin manoy haddaan maanta boqon cararo wadanka ayaan uga tegayaa kan waa kan ku dhiman lahaa waa kan ku dhergi lahaa waa kan ku dheefsan lahaa waa kan ku gaajoon lahaa meelna ugama socdo bay taala shaqadeedii Zainab halkii bay kasii wadatay maasha Allah dhila aad fool xun baa soo dhacday 3 maalmood mise 4 adigu week kadib dhila fool xun baa soo dhacday dhagahaygu aan aad ugu raaxaysanin waxa soo dhacay hadal aan qurux badnayn oo ah inuu injineerka Ilaahay oofsaday oo uu geeriyooday qofkii ii sheegay haddii aan heli karay waxaan oran lahaa waa beentayda waa iska ciyaaray laakiin ma noqonayso waxaan sidaa u leeyahay xanuunka uu lahaa yariisa wuu dhintay ma yahayn wax aan qaadan karo liqi karo laakiin waa qadar Allah waqtigiisa baa dhamaaday waxaan Ilaahay uga baryayaa naxariis janno inuu Ilaahay ka waraabiyo aabo fiican buu ahaa adeer fiican buu ahaa saaxiib fiican buu ahaa Sahra Markaysi sidoo kale iyadana waan isla shaqeyn jirnay wasaaradda warfaafinta oo inta badan barnaamijyada iga duubi jirtay aabaheedna waan isla shaqeyn jirnay Allah u naxariisto injineer Markaysi isaguna editingkaygu ah barnaamijyada sameeyo duubi jiray dadka meesha aan ku weynay waxay ahaayeen dad aad u qiimo badan laakiin mar walba waxaan is weydiiyay goorma cadaalad helayaan goorma dadka cadaalad helayaan way dhimatay gabadhii isqarxisay baa leeyahay way dhimatay gabadhii isqarxisay kulli dad mas'uuliyiin baa filimka iyo qisadu sida u dhacday daawaday anagu ma arkin oo jeclaan lahayn intaan aragno in anagana qanacno naloo yeedhana la tuso sidan bay u dhacday laakiin ma noqonin maanaan arkin anaga weli dadkaasi way naga maqan yihiin Allah u naxariisto intii dhimatay Allah u naxariisto qisada anigu in yar baan kala socda goob joog maan ahayn Ilaahay aan joojinina waan ugu mahadnaqayaa imikana waxaan jecelnahay ku wareejiyo walaashay gudoomiye Basma maalintii dhibku nagu dhacay gobolka Banaadir oo ku dhinta maayarkeeni iyo dadkeeni qaaliga ahay agaasimayaasheen iyo la taliyaasheen boqol soonada ahay waxay ahayd maalin madow waxay ahayd maalin murugo badan maalintii nagula soo wargeliyay inuu imaanayo James Swan gobolka Banaadir saaka alsiid soo dheermada naleer horta aniga balaayisay u jirto dirac gidigidii soo gashad markii arinta ay dhamaatay soo dhaweyntayd oo kor aan kornaan xafiiska xiriirka intaan gala musqushiisan diric bidishay siyaan walwalsanaayo albaabka agtiisaan fadhiyay wiil albaabka fadhiyay waxaan ku iri dadkaan naga celi qaraxa la sheegayay inuu soo gelin qof dambo Ilaahay ama hadda iskale meeshaas amuura ka dhacday Allah u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacantana Allah u boogadhayo ay kamid tahay Zainab iyo Gaboose Ilaahay waxaan uga baryaa caafimaad taam Ilaahay inuu siiyo maalintaas waxay ahayd maalin Ilaahay xalkeeda og yahay anigu waxaan joogay xafiiska siday gudoomiyayga sheegtay waxaan baastada cunaynay baastada anigu waxaan ahay dadka cuntada dib ku dambeeya weelka meeshii anigoo fadhiya gabar noo yeerto waxay nagu tir banaanka dhibaa ka dhacay soo baxa maxaa ka dhacay qof abu soolad lagu haaya naga dhaaf aadimayne haddana waa soo noqoto waxay tiri injineer yariisu baa qarax ku dhacay goortaasaan gooran kala orodnay ma qaani anigu musqushaan aadoo gacantiyo cuntadii leh dadka kala horteey ka tirtirteen waxaan soo gaaray gabar agaasimaha jardiinooyinka oo dhulka fadhida maxaa kugu dhacayaan irisay wax u dhaceen kor lagu dhamaaday tir kor markaan tagnay dadkeeniyad muddo in la isku soo celiyay darin mugeed ah qofba meeshay fadhida inta soo tuurantay waxaan ku leeyahay wax la fiiri karo qaaca wax loo jeeda isan jirin meeshiyan kornay waxaan nagala hor keenay xalane Allah u naxariistee Zainab baa la soo qaaday waxaan soo qaadnay oo ku xigay Cabdullaahi Dheere Allah u naxariisto Gaboosa ugu dambeeyay sida runta baawur ma aan haysan dadka lagu qaado Cabdullaahi Dheere waxaan saarnay Allah u naxariistee baawurka canshuurta gobolka Banaadir oo soo aruuriyo yar ayaan saarnay lugihiisoo banaanka yaala ayaan saarnay waxaan noola sheegay inuu ku dhintay Shangaani dhexdiisa markii la maray Gaboose meelaan saarnaan weynay
albaabkii oo xafiiska ama hoolka oo soo go-ayaan kor saarnay, waxaan saarnay baabuur qooqana uu leeyahay afayeenku. sida runtaa cunug waa waalwaalahay, wuxuu dhahayay aniga afayeenka meel kuma ogi seen u saaraa cunug intaan dharbaaxshay inaan kor ka saarnay. ciidankiyaa koreena iyagoo celihaya, gacanna qoragii ku haya, gacanna ku haya gaboose ayay qaadeen. dib haddaan u naqano waxaan aragnay gudoomiye Sahre oo lugta ka go-an inay iida ahayd ma u maleeyihiin. aniga naftirkayga waxaan dhahaa dadkii wixii na qarxiye waa kuwaan, qofkaana na qarxiye lugta ka go-an aan ku waashay. alxamdu shukr rabbilcaalamiin, ilaahay u naxariistii adduunka u ahay cabdiraxmaan yariisow iyo agaasimayaasheeniba waxay ahayn dadka adduunka naxariista ugu naxariisa jira. dadka say noogu naxariisa jireen aakhira allah ugu naxariisto, jannada allah ka waraabiyo. waxaa nagu dhacday maalintaas goortaan jabaday, meeshaan ka jabaday iyo saacaddan jabaday ayaa nagu dhacday. dadkeena meeshaasay ku dhammaadeen. waxaa noo joogay dad manaxayaala aan arkaynay, baabuur madooba meel joogaan arkayna noo yaala. meeshaas waa necbaha ilaa hadda ma marin, haddana inaan mara ma jecli. gaarigaasaa yiilay, waa nagala dhex fiirsanayay, annaguna waa barooranayna. meelaan saarnaa weyne wiilka gudoomiye ku-xigeenka kaxda ahay ay gudoomiyada kusoo naqatay markii dambe ay kaarkeeda heshay. tuutaha ay wadato ay sheegayso gudoomiyuhu waa tuutaha calanka Soomaaliya u ahay ee ma ahayn tuutaha askarta wiilku. meelaan saarnaan weynay, baabuurkaas sida loo garaacayay wiilaa gacan uga jabay, wax fura waa la waayay. baabuur baruufoo madooba u ahay. gudoomiye Jawaahira isu dhigtay gaari saarufa oo soo galay, tiri idardar ama qaad qofkan. saasay ku qaadeen wiilkaas oo lagu geeyay Digfeer. dhibaato badan meeshaas kula kulanay. dad gobolka Banaadir joogay oo waaweyn oo noo yimid markaan dhaawaci qaadno meydka in la soo dejiyo la rabo na yiri maxaa meesha ka dhacayna waa jireen. laakiin ilaahay xaqa Allah tusaan leenahay. aniga waqti 10 saac iyo bar camal ahaan gabaraa lagu heestaa laygu yiri iridda noo timiday oo xoogay xanuunsaneedaan is iri orodoo gabadha ciidanka ka fuji. markaan ka soo noqday wiil iga hor yimid waxaan ku iri isagoo qoslay wuxuu ugu yiri haye ma fiicantaa Sahar? waa fiican gobolka ma ka shaqaysaa? irmayo u yiri maxaa saacadan ku dhigayaan dhahay. danahayga u dhahay ilaa hadda igu taagan yahay wiilkaas. laakiin waqtigeeda ay soo bixi doontaa. injineer yariiso anaa dilay shaqaalay gobolka Banaadir, anaa dhameeyay qof dhahays oo microphone ta qaada TV soo fadhiisataan sugaynaa. xaqa afka dii laga xiray wuxuu ka dilaacaha la yirkilida. baaritaanka iyo wixii aan sugaynana afdaboolan dahabay ku dhamaatay. marka Allah u naxariisto. annaga dheemishaan ugu dhacay, annaga xataa dad caadi ma nihin, waxaan dad iska waalano waalida dhaqanta ah. marka uu dhibkaas nagu dhacay kadib Ilaahay u naxariisto. waxay naga joogtaa adiguba sayidku wuxuu yiri adiguba aqlaad leedahay carar maxaa dhaama, waa uu noolnahay maahane farxad kuma noolin. injineer yariiso iyo agaasimayaasha iyo la taliyaasha gadaashoora waxaan leeyahay gaboose iyo Saynab Ilaahay idin booga dhayo. dalkiinaad u nooshiin iyo dadkiina sidaad waxaan ku leeyahay Saynab oo kaleentood ayadu hadda way dhaqdhaqaaqi kartaa shaqadii wadaa qaranka. waxaan ku leenahay annagana garabkaagan taagana intaan noolnahay, intaan sii noolahayna Ilaahay yaaba og ma naqaano. maalin walba waxaan waaye markaad gurigaaga ka baxayso inaad tiraa waaye waa dhimanaysaa saacadaha soo aadan, sababtoo meelaad gaaraysa ma taqaanid. waxaan nahay ku dhammaanteena cambuulo carab saaran. Allah u naxariisto gudoomiye injineer Cabdiraxmaan Yariiso, jannada Allah ka waraabsho. Cabdulaahi Dheere, waxaan ku leeyahay Cabdi Daahir, Sahro iyo Sabaax, xalane dadkii oo dhan waa kala iloobay. caaqil waxaan ku leeyahay dad badanaa naga dhintay. la taliyihii oo xagga sharciga Allah u naxariisto. dhammaantood jannada Allah ka waraabsho. annaguna gadaashooda Ilaahay nama fidnayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan nahay marqaatiga nool. bismillaahi rahmaani rahiim. marka hore Dalsan TV aad u mahadsantihiin. barnaamijkan oo la yiraahdo ciwaankiisa marqaatiga nool runtii barnaamij aad muhiim u ah waaye. ani waxaan kamid ahay maalintaas
dadkii goobjoog ahay markii aan ka bilaabo dhacdada ka hor sidii xaaladdu ahayday shirka waxaan lahayn maalintaas arbaca kasta dhici jiray oo la yidhaahdo shirka tobaha horumarinta 2 isbuuc maaqan 3 isbuuc camal uu naga baaqday maalintaasaan lahayn marka sidii caadiga 8 saac inuu dhacay ahayday marka shirka uu dhamaado waxaa isku hari jiray sida caadiga ahayd guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolka especially qaybta amniga iyo duqa marka shiraan ku lahay marka hore 6 saac camal bacda duhur qaybta rugta ganacsiga markaas waxaan joogay qaybta ganacsiga waaxda ganacsiga joogay barkaas marka shir yaraan ku lahay rugta ganacsiga 8 saac oo wax dhiman anigoo inaan soo baxa raba ayaa waxa ii soo dhacay fariin qoraaleed oo ii soo diray saaxiibkay Allah uu naxariistay Cabdullaahi Dheere agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha oo leeyahay shirkii wuxuu dib u dhacay ilaa maxaan ku raahdaa 3 galabnimo sidaas daraadeed fadlan waqtiga ilaalsha ha baaqanina hana soo dibdhicina sidaas ay u qoran fariintu intaas ka bacdi shirka aan kasoo bixi rabeen ku laabto shirkii aan si habsameel u dhamaystay waqtigii oo maxaan ku iraahdaa fariinta la igu soo diray oo ay ka dhiman tahay 20 daqiiqo ayaan maxaan ku iraahdaa agaasimaha shaqaalaha xafiiskiisa aan ugu soo galay daqiiqadii ka dhinay barnaamijka maxaan ku iraahdaa intuu bilaabma lahaa oo message-ka noogu soo diray ayaan wada sheekaysanay ka bacdina waa israacnay sida caadiga ah ani asiga 2 kursi oo maxaan ku iraahdaa isku xigtaan fadhiiso jirnay marka aan hoolka sii galeen ayaan inta ka soo laabtay ayaan waxaan soo doontay computer laptop xafiiskayga yaalay si aan barnaamij markaasi maxaan ku iraahdaa la iska rabay oo waxay iga dhinaayeen aan u dhameystirto kadib waxaan galnay hoolkii aan galnay muddo aan fadhinay waqtigii ay la dhaafay dadka intooda badan waxay galeen salaada casira loo baxay salaada casira la soo dukaday waxyaabaha cajiibka ah oo meesha ka dhacay dhacdada ka hor waxa ka mid ahay waa la kaftamay maadaama duqu naga maqnaay marka Allah u naxariisto waxa si qaas u kaftanay aniga iyo Abukaat Xan Sabriye iyo injineer Axmed Xaaji Cabdiraxmaan maantood Allah u naxariisto waxa la isku soo qaaday sheekiro dhalinyaro xas ku saabsan marka injineer Axmed Xaaji wuxuu yiraahdaa ninkan muxuu dhalinyaro asigaaba maxaan ku rabidaar la ana 70 samsi jiro ayaaba ka timan badane markaas wuxuu dhahay Abukaat Xan Sabriye Allah u naxariistay reer 70 waa tageen ee tala nin tuurlay u taal dabcan sida muuqato tarjumadu waxay tahay qofkii reer 70 kiina waa isaga daqiiqadiina way dhacay waqtigiisii aad u dhow marka wuxuu reer 70 way tageen ee tala nin tuurlay u taal sidii aan ku joognay waqtigu daahay dhagacadaan la kafto waxaan ku raadin niyo dadkan adiga intooda badan maxaan ku raadin isu keentay qaasatan gudoomiyaasha degmooyinka cudurdaar gudbi dadkan iska maxaan ku raadin gudoomiyaasha maadaama meel fofka iman hawlba u taal iska fasax sida muuqato maanta barnaamijkii oo hore oo tubta iyo arrimihii amniga oo degmooyinka duqul la geli jiray waqti inaan loo helin oo muuqatay markaas wuxuu yiraahdaa maanta muddo maxaan ku raadin uu shirku baaqanayay duquna waa ila soo hadlay ana waa wacay marka wuxuu dhahay maadaama shirku muddo u baaqday maanta lama baajinaaye waqtiga rabta ha qaadato waa in la isugaa sidaas daraadeed waa sugaynaa intii hadalkii aan isku tutuureynay xilli adiga maxaan ku raadin 4 iyo barkii qiyaastii meelaas ku dhadhow ayaa gudoomiyaha iyo gudoomiyaal degmo ay ka imaadeen Mawlaca Macal Nuur oo barnaamij ka jiray ay noo soo galeen waxyaabaha kale oo ayagana calaamadaha ah waxaa ka mid ahay marka uu soo galay duqu oo fadhiistay ay wuxuu ku yiraahday agaasimaha xiriirka degmooyinka mudan agaasime aayadaha quraanka inoo fursada caadiga ahaydba markaas wuxuu yiraahdaa maanta waxa inoo akhrinaaya aayadaha quraanka injineer Axmed Xaaji Cabdiraxmaan injineerkii wuxuu akhriyay dhowr aayadood oo ugu dambeeyay suuratul munaafiquun oo ay ka mid ahayd walan yu'akhir Allah nafsan idha jaa ajaluha la yasta'khiruna saa'atan wala yastaqdimuun runtii waa calaamad kale oo Ilaahay ka keenayo iska muwaafaqatul qadar waaye
ajashii in badanoo naga midaba ku dhacdayba sida maxaan ku idhahdaa aayaddiin ila amarkiis waxaa waaye waa isaga soo toostay shirkaa furmay shirka markuu furmay waxaa presentation lahay agaasima culusow shirkii marka commentiya laga bixinaya dhowr commenti dhowr qofoo kala duwan ay bixisay marka yar aniga ila fadhiyo agaasima ku-xigeen ahaa ayaa iyadoo inta hadalkii la siiyey ninka la yidhaahdo agaasima caaqil anu xariistay oo hadlaayo iyo intuu istaago wuxuu dhahay guddoomiye anigaa ka xaq leh wuxuu dhahay marka ma hubta inaan ka xaq leedaha soo uma jeedid in hadalka oo wato oon aganin agaasima oo hadlaayo markaasuu rahaa wuxuu waa mahadsan tahay maanta shirka wax commentiga kuma leeyahay maalinka allah ku gaarsiiyo iska fadhiisoo mahadsantahay sidii uu ku fadhiistay commentiyadii iyadoo socdaan oo dhowr commenti oo ugu dambeeyay abukaati xasan sabriye ayaa waxaan ku idhaahdaa waxaa su-aal la weydiiyey agaasima culusow oo presentationka uu meesha ka jeediyey su-aal ku saabsan isagoo su-aashii ka jawaabaya uu taagan yahay dadka inta badan attentionkoodan oo isaga xaggiisa usii jeedo ayaa hal mar waxaa dhahay qarix anigu marka inta aan ka xasuusto qarix markuu dhacay aniga dhan waduu lahaa kor hawadan aaday waan soo dhacay kursigii aan maxaan ku ku fadhiyay aan si dadaba ugu dhacay oo dhabarka oo ii galay kabacdina waxaa iga soo dul dhacay dhowr kuraastii meesha tiila iyo miisaskii wax badan dusha iga fuleen uurana way isoo gashay waxaa maqlay xabada dhacaya banaanka oo kale ee dadkii xabadii walbaar waxbaa la riday meel lagimi qof walba fahmi weysay anigana dhegaha kastoo maadaama qaraxa uu dhacay dheguhu aaday waxay i noqdeen waa shib iga dheheen marka rasaasta waxaan u malayaa meel fog wax ka dhacay kal camal waxna uma jeedo uuriya soo gasho waxaan isku iraad waxaan isiraad marka waxaa la soo galay hoolkii oo meesha xabada ku socotaba gudihi dadkii ala dhamaystiru haya maadaama kuraas badan iyo wax badan dul saarnayn marka halkeygiyan sii jiiftay anoo markaa lugaha iyo gacbana dhaqaajinayo bal inaan wax jaban iyo in kale jiraan oo kale waxaa maqlaya marka garaac badan iridda weynaa la furaayay ninka la yidhaahdo shoo cumar raggay kamid ahaayeen si aan marka dambe arki doono iridda weyn markay furantay ayaa waxaan helay iftiin yar iftiinkii markaan helay waan soo fadhiistay markii aan soo fadhiistana waxa indhahaygu qabteen ugu horey waxa ahaayeen dadkii oo intooda badan macnaa inta kuraas ku hoos jira dadkii wixii carari kara way careen waxaa kusoo haray keliya dadkii dhaawac ahay iyo intii dhimatay dadka in badanoo kamid a naftuba ma ayna dhibin markaan kasoo qaado abukaati xasan sabriye allah yarxamu kursiga uu ku fadhay isagoon meelan u dhaqaaqin sidaanu kale u fadhiyey gacanta halkaan buu maxaan ku idhahdaa qoorta usoo dhacda oo keliya meel kale uma dhaqaaqin laakiin inta kale dhulka yaaleen waxaa ku xigay agaasime shaqada shaqaalaha iyo agaasime cabditax cumar xalane oo isdul saaran qaar ka dambana ay kuraas ka saaran tahay aniga kuraas wixii markaan iska qaaday waxa ugu horreyn raas waxay ahayn bal horta inaan helo si aan xiriir u sameeyo taleefonkii wixii aan helo gudoomiye ku-xigeenka marka degmada Boondheere degmada maxaan ku idhahdaa Shibis Maxamed Xasan oo kasii degaya jaranjarta dhinaca kale oo irdu weyn lagu soo galmay tan kale ayaa wuxuu u yiraahdaa war meesha waxaan qaraxan inuu meesha ku jira laga yaabo mid kale ku jire wadnigu ka soo carar waxaan soo qabtay marka laba telefoon lahay iyo laba gacan labadii gacanaan mid ana u haystay inaan u dhiibaayo ayaan ku dhiftay ku tuuran warnigu telefoon ma shaqeyn markaan oo kale gacan ka hadal waan soo orday ka soo laabtay oo dadkiisi u safan yihiin waxaan indhahaygu qabteen oo maxaan ku idhaahdaa markaasi wax dhaawac macquul ah wax ka kici karo oo kaay kaliya ninka la yiraahdo agaasimanka boose oo lugaha iyo gacmahaba aad u baaba'san yihiin waan orday banaanka waxaan balkoonka inta soo istaagay iyadoo duqina gaariga la saaraayo oo barxadda dad ku buuqsan yihiin ayaan qeylin ku dhawr dad noola ku jira meesha soo gala waan soo orday agaasimihii shaqada shaqaalaha iyo maxaan ku idhaahdaa cabditax cumar xalane oo isdul saar anagoo halkii ka qaaday jiiday maxamed xasan ay soo galay gudoomiye ku-xigeenka degmada Shibis isla markii haddana waxaa ii soo galay gudoomiye ku-xigeenka degmada Boondheere saddexdeena dadka ugu horreeyay oo dadka qaada ahayn marka laga reebo gudoomiyaha oo ay qaadeen shuu cumar iyo tiim kamid ah halkaas ayaan maxaan ku idhahdaa ka bilaabno dadka inaan qaadno runtii waxyaabaha aan aad uga naxay oo mar walba maskaxdayda kusoo waxaa kamid gudoomiya maxaan ku idhahdaa Seenib Xabsi oo markii hore aan u malaynayo qof dhimato decorationkii oo maxaan ku idhahdaa hoolka soo dhacaya inta badan kor ka saarnay lugaha un baa muuqda marka qof dhintaan u qaadanaya marka mar aan dhowr qof aan qaadnay kabacdi ayay soo fadhiistay iyadoo aad u malayso wejiga in maxaan ku idhahdaa fargeeto kale looga xaqaala oo malayso aad
dhiiggeeda u socdo wejigeedana aan maxaan ku idhahdaa aada loo sixi karin. halkaas waxaan ka bilaabno marka inaan qaadno dadkii oo aan maxaan ku idhahdaa gurmud u fidino dadkii qofkii ugu dambeeyay markaan qaadno meydka keliya kusoo hareenna waa qeybaha amniga ayaa noo yimaadeen. halkaasna waxay yidhahdeen haddii aanay jirin wax kale oo nool oo hoolka ku jira gurmud u fidiya dadka inta maxaan ku idhahdaa nool isbitaada loo qaaday dhiig iyo waxaad gaarsii kartiin gaarsiiya wixii kale howla iyo arrimaha amniga marka anagaa la wareegayna. sidaasay marka dhacdaas ahayd maalintaas. runtii jawigu daqiiqada ka hor sida uu ahay iyo maxaan ku idhahdaa sida uu daqiiqada ka bacdi noqda waxay ahayd wax aan qof aan markaas indhihiisa ku arkin aan lasoo wareegi karin. runtii waxay ahayd musiibo aada u weyn, musiibooyinka aan usoo joognay in badan wax badan usoo joogna, laakiin musiibooyinka aan goobjooga u ahay anigu shakhsiyan oo isoo mar ugu xanuunka badnaa ee kamid ahayday in hal mar 10 qof oo kamid yahay meeyarka caasimadda oo daqiiqada ka hor aad sheekanaysanaysiin aad aragdaha ku aragto meydkooga iyo dhaawacooda in badan oo kamid ah ay qoys yihiin aad aragtid. runtii waxay ahayd dhacdo aad iyo aad u xanuun badan. marka laga soo reebo marka laga soo tago dadka meesha ku dhintay waxaa dhaawac weyn aydan ku ahayd qaranka Soomaaliyeed in xaruntii aan dhihi karno madaxtooyada labaad oo maxaan ku idhahdaa dalka aan dhihi karno in musiibo intaas la eg ay ka dhacdo ayadana waxay ahayd wax kale oo runtii picture khaldan iyo wax aan fiicnayn ka gudbinaysa waddanka. laakiin waxaan leenahay qadar allahu maa shaa facal. intii dhimatay allah u naxariisto, intii ay ka tageen ilaahay ha barakeeyo. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala cid kasta oo Soomaali ah inay ogaato cadowgaasi mar walba uu jiraa. dadka inta nool ee muwaadiniinta ah ee qaranka u adeegayana waa runtii taargada u yihiin dhammaantood oo wada xukuman yihiin, kalama jecla qofka ugu hooseeya shaqaalaha iyo maxaan ku idhahdaa madaxda ugu sarreysa taargada u wada yihiin. waxaan rajaynaynaa in waxaan ku idhahdaa ilaahay idankiisa maalin laga xoroobi doono dadka Soomaaliyeedna gacmahooda iyo xoolahooda iyo sharafkooda ay difaaca doonaan. maalin maalmaha ka midan aan arki doono dadkii halkaasi aan ku weynay shuhadadii ilaahay u naxariiste oo maxaan ku idhahdaa cadaalad aan rajaynayna insha allahu tacaala. runtii waa hubnaa in qaranka Soomaaliyeed oo waqti badan geliyey ilaa haddana oo ku jiro. runtii waxaa laga yaabaa in soo daahdo waa suurtagal markii wax la baaraayo baaristu horey resultiga lama helo, laakiin waxaa laga yaabaa in maxaan ku idhahdaa waxyaabo badan oo isla xiriira ay lagu raad joogo maalinteedana aan hubno inay soo bixi doonto. qaranku wuxuu u dhisan yahay waxaa waaye amniga muwaadiniinta. howlahaasna waxaan rajaynayaa inay soo ifbixi doonaan idinka ilaahay ah. amniga qaybahooda kala duwan oo hubaa inay waqti badan geliyeen ilaa haddana aysan ka quusan. maalin maalmaha ka midana aan ku kalsoonahay inay soo saari doonaan. aad iyo aad maxaan ku rahaa waxaan ugu mahadcelinayaa TV-ga Dalsan oo barnaamijkan la yiraahdo marqaatiga nool soo diyaariyey. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sidoo kale dadkii meeshaasi dhibaatada ka soo gaartay oo maamulka ka dambeeyey runtii oo maxaan ku idhahdaa guntiga dhiisa isaga dhigay inuu wax badan u qabto ilaa haddana uu maxaan ku idhahdaa uu garab taagan yahay inuu arrintaasna ayadana maamulkan inta uu joogan uu xoogga saari doono. cid kastoo Soomaaliyana maalinteeda ay maxaan ku idhahdaa xilka waa meertay maalintii ay ilaahay u qadaro mar walba tixgelintooda lahaan dadkii wax ku waxyeeloobay haddii aan halayn kuwa ku dhintay iyo kuwa naafada ah ee weli nool in la dariyo doono heer qaran, heer federaal iyo heer gobol inta waa rajaynaynaa. annaguna nama niyad jabinayso runtii dhibaatooyinka noocaas ahay ee dhacay. waxaan ka qaadaynaa geesinimo iyo adadayg iyo inaana cadowga uusan marnaba dalka dhibaato kasta u geysto aysan macnaheedu ahayn inaan howlaha aan u hayn qaranka aan ka niyad jabayno. aad iyo aad u mahadsantihiin insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه أن وحير تاريخ ذا نديب أقول لابنا رن هانتي هرت أد بأوج فرح سنة إن
soomaaliya khaasatan magaalada muqdisho laga helo wax qoran dhacdooyinkeedu in la qoro ama la dokumenti gareeyo nooc walbaba ha noqotee badanaa waxaa aragnaa in maxaa la yiraahdaa wixii dhaco la iska iloobo cadowga ummadda soomaaliyeedna markii wax u geysto aad arkaysid 2 sano 3 sano kadib dad la soo qabtay oo maalin hebel waxa dhacay dadkaana shaqo ku leh la dhahayo laakiin aysan jirin dadkii markaa meesha goobjooga ahaa wax ka dhacayeen awood ay ku hadlaan ama ay ku bandhigaan dareenkooda ka duwan midka ay dadka kale caadiga ee maqlaan markii bulshadu ay wax walba aysan maxaa la yiraahdaa ay ignore gareenin ama aysan iska ilaawin waxa badanayso in xalku uu soo degdego sida ognahay ama taariikhaha islaamka dhacdo kaste taariikhaha islaamka markii la soo bandhigayo ama kutubada aan ka akhrisanayno dhacdo walba way qoran tahay oo xarbi kasta wuxuu lahaay iyo wax walba dhaca waxay lahaayeen waqti iyo magac u gooni ah ee lahayd laakiin aniga hadda aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qayb noqonayo wajiyada cusub ee Soomaaliya ama khaasatan Muqdisho doonaynayo in wax walba dhaco wax qoran ay noqdaan wax dokumentiyeysan ay noqdaan wax ummadda naga dambeeysa ama carruurteena ama maxaa la yiraahdaa jiilalka dambe ay arki doonaan inay noqoto oo looga sheekeeyo waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo xusuusteedii waxay ahayd habeen talaado ah oo maalin talaado ah Arbaca soo galayso gurigan joogay anigoo markaa shaqo ka imaaday waqtiguna uu ahaa 4 saac wax yar dhiman camal maayarka magaalada ay soo wacay wuxuu igu yiraahday si degdeg ah waxa igu imaadaa waxaan joogaa Guryasamo marka Guryasamo waxa ka jiro iyo hawsheeda dhan midna update kuma ahayn waayo shaqa markaa ku jiray aniga oo busy ku ahay markii aan imaadayna waxaan doorbiday inaan xoogaa iska nasto maadaama subaxii alisay aan baxay talaadada ahayd habeenkii marka waxaan ku soo baxay dhar iska dharkayga oo casualka oo marka shaqada aan loogu talagelin oo iska caadiya aan ku soo baxay mar alaala markaa imaaday gudoomiye Sabaax Allah u naxariistay baa igu aragtay banaanka Guryasamo anigoo markaa soo galay ee igu tiri waxa jirta xaflad waa inaan soo gashaa markaa ku iri dhar xaflad ah ku gala ma xirniye banaanka idinku sugayaa maayarkana message u qoray waxa ku iri waa imaaday banaankaan ku fadhiya gudoomiye uu igu soo celiyay soo galo igu dhahay anoo markaa cagajiidaya Sabaaxna igu aragta meesha sidii yaa ku galay hoolka markaan fariistay waxa ka jiray casho uu u sameeyay maayarka agaasimayaasha amniga inay ahaayeen u maleynaa wasiirada amniga kulli sida ay ahaayeen hadda ma xasuusto ee maamul goboleedyada shir uga socday magaalada uu ku macsalaameynaya cashana uu sameeyay kulan soo dhaweyn isagootina markii aan soo baxnay kadib baan hadana meel kale isla soo fariisanay inagoo tiima wuxuuna ii sheegay oo markii ii sheegay in aan imaado biri subaxdii aroorti Arbacada ah si aan eventi xitaa qofka imaanay ma uusan noo sheegin qaasatan anigu iima uusan sheegin waxaana ahayn dadka aad iskugu dhow maayarka magaalada saaxiib dhowna waa ahayn wada shaqeyn iyo talo iyo maxaa la yiraahdaa waxa naga dhaxeeyay wanaag aad u badan oo ka baxsan maxaa la yiraahdaa wanaag qof shaqaalahiisa iyo madaxdiisa inta u dhaxeyso waayo maayarku wuxuu ahaa qof dareensiye mar walba gabarta horumarka koowaad inay ayada mudan tahay shaqada koowaad ee gabar inay ayada mudan tahay qadarinta koowaad ee gabar inay ayada mudan tahay marka waa uga socnaay 17 kale ee saaxiibada ayagoo qaar gabdha ay ku jireen sida aan iskugu dhaweyn oo barnaamijyada iyo horumarka iyo guud ahaan shaqooyinka aan u wadaagi jirnay ilaahay wuxuu qadaray habeenkii waan ku daahay meesha waxa ii soo qaaday guriga oo xaafadeeda ii soo qaaday markaan ku daahay meesha gaarigeygana aas ka soo fasaxay Allah u naxariisto walaalkay xilbaan aadan ka tirsanaa xilbaan golaha shacabka ahay iyo xildhibaankayga ahna wasiirkayga ku xigeenka arrimaha dibadda Siraaji Maxamuud Siraaji oo xaafadeeda i keeneen habeenkii subaxii ma aqaan sida ku seexday degdegii waxaan leeyahay gudoomiyaha biri soo dhaqso wuxuu ku dhahay maxay ahayd sidaan u dhafraayo oo aad leed u soo noqoto salaada subax markaan dukaday anoo seexanin baa waxa is ire wax yar is indha guduudso 1 hour 2 hour
kadib bax hurdadii ay la tagtay miskoolo badan ku arkay taleefanka waxaa la marayaa 3 saac oo wax yar dhiman markaasaan hal mar soo booday isdiyaariyay horay ka soo orday soo orodkii aan soo ordayo oo imid xarunta gobolka waxaa albaabka fadhiyay baarista anoo taleefan gudoomiyaha la hadlaayo baa soo galay meeshii maxaa la yiraahdaa mashiinka lagu baaro dadka gabar ana markaa ahayn maxaa la yiraahdaa oo sida informationka aan ku helayn ee ahayd in gabdhihii baaraya la waayay gabdhaheeni kale shaqaalaha gobolka ahay ay markaa shaqada sii wadeen ayaga si aanan u imaanin gaab markaa waxaan ku iri caasha la dhahay caasho taleefankan gudoomiyaha kula hadlaa caasho waay adiga u baarosa aaw gabdhihii booliiska meesha ka shaqeynay markaas ay igu tiraada habar yar gudoomiye basmo iyo gudoomiye jawaahir baa ay dhaheen sii baar inta gabdhaha ka imaanayaan shaqada iskale marka alxamdulilah hore aan usoo gudbay baaristi aniga waa maray kuley hadda dadkii CCTV-gii ka xirnaa meesha way arki karaan oo waa maray oo caasho iyadoo ila hadlayso oo la baarayo oo meeshii waan gudbay sidii aan ku galna meesha markii soo dhaweyntii maayarka uu sameeyay James Wan baa hoolka galnay hoolka markaa galnay waxaa ka xasuustaa inuu maayarku uu speechkiisii ama hadaladiisii uu ku darsaday presentationkii kadib in degmadeeda uu ka bixiyo wax yar oo information taasoo ahayd qaraxii ka dhacay May oo markaa wax yar ka hor ahayd ayadana 2 bilood aan dhigi karaa ama bil iyo wax yar ma aqaan hadda xusuusteeda 14 May ee ahayd qaraxii ka dhacay buu u sheegay James Wan uu ku yiraahday Zainab waa gudoomiyaha degmada Warta Nabadda waxay ka badbaaday qaraxaas cadawga uu meesha ku sameeyay degmadana waxa hadda ku sameyn rabnaa si isxilqaana oo aan rajeynayno sidii ka qurux badan inay imaado waana dhalinyarada gabdhaha ah empower gareynay information xoogaha ah marka alxamdulilah markii meeshii ay noo dhamaatay baan maxaa la yiraahdaa leeyda ahayd hadan hoolka tagnay hoolka xaflad loogu qabtay hadiyada lagu siinay kadib waxaan ka dahsaneen mawlaca macal nuur oo markaas qada ku lahayn markii uu naga tagay ergeyga gudoomiyahana waxa u taala shaqo badan xafiiskiisu aad u jaam u ahay xafiiskiisii jaamka uu ahay dadka istaagu ku qaabilaay badana qofba meel uu istaagay annaga dhan gudoomiyaasheeni iyo shirki intii laga baxay xafladaba waxa moodaa xafiiskiisii hal mar in la dhahay uu wada tago qof walba dhinac howlo markaas uu ku taagan uu kala hadlaayay markaas waxaan ku iri gudoomiye shaqadan badan way noo taalaa oo adiga ku sugaysaa qadadina waa ka daahno qaliifka uu isoo wacay dhowr mar uu isoo wacay ani marka waxa ahaa connectionkii isku xiraayay markaas gobolka iyo mawlaca qadada ka jirta gudoomiyaha Allah u naxariistay wuxuu dhaw walaa waxa sameeyna malahan tubtiina waa tanaawi waan sugaysaa shirki tubta oo marka yarkii agaasimka ka ahay baa taagan qeyr Allah si walaalkay dalxa markaas wuxuu ku yiri Zainab arinta maxaa la yiraahdaa shirka maanta gudoomiye shirka maanta hanaga baaqdo waa ku yiri anoo marka u sababeenayo inuusan maxaa la yiraahdaa 2 isbuuc oo ka horeysay qiyaasteeda uu baaqdeen ku iri gudoomiye hanaga baaqdo maantana maanta qadadan marti maadaama wafdi culus magaalada uu joogo soo arag aadayna muhiim noogu tahay Suudaan waayo wafdiga jooga markaasna waxay ahayd jaamaca Afriqiya gudoomiyaheeda soo booqday jaamacada Imaam Shaafici imaam majmaca muassasada macal nuur marti uu ahaa marka waxa ku iri gudoomiye Soomaali intee la eg gobolka Banaadir qaasatan dadkeedii ah baa jiraan Suudaan jaamaca Afriqiya dhigtaan ama ha noqoto minxo ama ha noqoto si kalaba waxay noo leedahay muhiimad weyn inaan dhahno waa ku mahadsantihiin supportkiina ee Soomaali sida Suudaan maxaa la yiraahdaa dad badan oo muhiim u ah ay uga soo baxeen qaasatan jaamacadaas iyo hadda waxyaalaha aan u baahanahay waxbarashada dhankeeda marka gudoomiyaha wuxuu yiraahdaa dalxa mid ma sameyn kartaa shirka adina waxa ku dhagan tahay iyo baaqan Zainab iyo waxay taagan yihiin ha baaqde shirka waqtiga aan ka soo baxno nooga dhig qadada oo waxa imaanaya 9 saac meeshii uu 8 saac ka ahaa 9 saac imaana markaas ala kaftama waxaan ku dhahay dalxa dadka ma soo qadeyn ma yeelin gudoomiye intaas ma lagu sugi karo maanta dhanaa shaqo iyo xaflad lagu jiro markaas wuxuu waxa ku iri fiir hamburgerkii arabtiin inaan idin diray hamburgerkii hadda loo diro anoo si kaftan dalxa markaas walaalkay naga dhaxeyso
aan ula hadlayo marka wuxuu dhahay dadka qadaha loo dalbo gudoomiyaha qadaha loo dalbo hala fariisto markay qadeeyaan waa imaanaya insha Allah shirkana ma baaqanayo anigii sabaaxa baa marka saaxiibna ahayn dad hore isku yaqaanana ahayn oo saaxiibo hore oo qaranka ka wada shaqeynay waa isla soo baxnay gudoomiyaha inta sugeynay waxaan ka wada hadlaynaa arrimaha shaqooyinkeena gaarka ah iyo midda qaran ee saaxiibka ka ku ahayn meel baranda ah waxaan isla taagneen muddo ku dhow 40 daqiiqo camal oo ka sheekeysanayna amuuro anaga noo gaar aha markaas iyo kulan aan markaa maalmo ka hor aan ka nimid Garowe oo xoogaha ka hor aan ka nimid bil ka hor aan dhahay iyo waxyaalihii aan markaas ka soo hadalnay waxa nooga qabsoomay team ahaan waa soo baxnay Jawaahir oo nimid adana waxaan ku dhahnahay waa bixeena iyo gudoomiye Basmo Jawaahir waxay tiri inay mashquulsantay noo sheegtay anoo markaa dhahayo la kaftamaayo moolaca inaan noo raacdo ma diidan tahay kadib gudoomiyaha soo baxay xafiiso karuuso u tagtagay kulay wax la iswatay salaanta iyo macsalaameeska iyo dadku sidoo maalinta hambal ugu ahay run ahaantii waxay ahayd wax aan la soo koobi karin qiyaasteena moolaci markaan tagnayna waan baxnay oo sidii xogta walaashii gudoomiye Basmo ay sheegayso gudoomiyaha gaarigeeda isla raacnay aniga gaarigeyga waa ka tagay xitaa maalintaas mar dambe oo wadada dhaxal sii socona waxa uu soo diray gaarigeyga gudoomiye Zahra Allah u naxariisto uu soo qaaday oo moolaca inoogu keenay anaga marka inta moolaca iyo joognay baa waxa ku soo dhacay degmadeeda hoobiyaal qayb kamid ah degmadeeda hoobiyaal ay cadawga soo tuureen marka hoobiyaashii pictureska meesha laga soo qaaday iyo waxay anoona fiirinin mar dambe la ii soo diray WhatsApp-kayga sidii qadadii markaa ku qadeynay gudoomiyaha aad u degdegsanaa shirka ka daaheena shirka waa ka daahan dhowr marna dhahay speechkiisa waqtiga uu ku lahaay gunaanadkay ahayd kulanka qadada waa laga soo hormariyay markii laga soo hormariyay waxaan xasuustaa maalinta waxa xariiriye nooga ahay kulanka qadada walaalkay qeyr Allah siiya asagana xilbaankayga xilbaan Cabdi Fataax Qaasin ee wasiirka xigeenka wasaaradda gaashaandhigga isaga noo xariirinaaye marka waxa ahaa hadalkiisa maadaama maayarka uu arrimo kale oo muhiim oo degdeg u leeyahay khudbadiisa hormarinayna dadka kala dhan ayadoo hadlin quraanka lagu furay qof baa soo dhaweynta khaliifka uu sameeyay kadib isaga hore ka hadlay inaga meesha sawiro iyo ku galnay gabdhaheena ah gudoomiye Basmo gudoomiye Zahro gudoomiye Sabaax iyo aniga sawiro taariikhi hadda marka arko aad dareenkayga u bedelo baa meesha ku galnay alxamdulillah markii aan nimid gobolka anagoo wadada soo socono baan sheekooyin ilaahay afkeena uu waafajiyay anigu hadda maxaa la yiraahdaa ana rabin inaan media la wadaago baan gaariga inta saarneen na dhaxmara aniga gudoomiye Basmo markii aan soo imaanay xaruntana gaarigayga aniga marka uu nala socdo oo wuxuu soo qaaday gudoomiye Zahra awal waxa uga tagnay gobolka gaarigay marka wuxuu kolonyada gudoomiyaha access u helay inuu soo galo uu soo dhawaado oo meel dhow gawaarida kale birta gadaal ma ahane iyo askarteeda ay imaadeen oo albaabka hortiisa ah gobolka ay ku baarkinteen marka albaabka markaan soo galnay anaga gaari gudoom Basmo la soo galo gudaha waa ka deganay jaranjarada markaan mareeno baa aniga ilaahay wuxuu i waafajiyay hadal gudoomiye salaada casirna waa la joogaa niyadeedu ku soo dhacday imkaas aan ku dhahay gabdhaha aan isla dambeynay gabdhaha daayay ina duurkii meel ku wada dukanay waxa ku yiri haday ina dukanayseen waa ogaayay saaxiibayaalo tubti ilaahay aan oo dhaanto tubtaan boojada oo leedkan aagaleeno waxba tan kama keeneen markaas sax waa wallahi tubti ilaahay aan oo dhaanto waa ila soo wada degteen waa soo dukanay wixii cabaar sheeka kadib markaa meesha ku laabanay baa waxaa jirto kursigay aniga aan rabay inaan fariisto waxaa fadhiyay gudoomiyaha degmada waa bari Allah u naxariisto oo markaa banaanka telefoonku hadlayay aan soo galaayo kursigiis markaa fariistay walaalkay caaqil Allah u naxariistay oo dhabarka kursigaas fadhiyaa ugu yiraahday waa la fadhiyaa kursigan seenum markaas ku dhayaa fadhiyo markaas ku dhax mahad gudoomiyaha fadhiyo waa soo kaca kursi yara soo qaatay geeska waxaan dhigtay oo ka banaana ayaga markaa safka ay fadhiyeen meesheedii markaa fariistay aan gaboosaan dhinaca isku heenay markii salaan iyo bariidin kadib mobilkayga la soo baxay shirkana waxaa jirto group amniya oo dhacdooyinka dhaca emergency la rabo in report laga qoro oo haday aan ka qorin oo maxaa la yiraahdaa late aan ka ahay
waxaan boobsiinaya mobilekayga aan ku qoraaye waxa dhacay shirkana aan ku dhageysanayay waxa socdo presentation aan oo dhamaaday su'aalihii marka qorow galaan marka inta su'aalaha committee dadka qabo oo groupka amniga gobolka aan u dhigayay informationkii maanta degmadeeda ka dhacay mobilka sidaa u qoraay markaas waxaan ku arkay waxyaalo oo qara hoobiyi la soo tuuray hadal baa afkayga ka soo baxa oo buruufti hadee sidaa noqonayso wallahi bajaaj buruuf isku mid waaye marka agaasima gaboose ilaahay caafimaad taama ha siiyo oo dhinaciga fadhiyay markaas bidix baa igu dhahay maxaa waaye markaas ku dhahay daay hoobiyaasha soo dhacay ma maqashaha baabuurtan day sida u galeen baabuurkan markaas mar dambaana ogaana inay baabuurta buruuf ahayn maxaa la yiraahdaa mobilkiisu sidaan anagoo u wada fiirinayna keegi oo ani asagana sidaa isku nahay baa xaaladda noogu dambaysa markaas aniga ma aqaan mobilka gacanta aan ku hayay waa gacanta asaga tiisi isoo xigto mobilkayga dhinaca uga hayana dhinaca uga hayo asaga gacanta waa ka go'ay aniga gacanteedu waa burburtay dhinacan dhan oo bidixda baa wax saaid iga gaaray markii laga reebo saableyda alxamdulillah madaxa gacanta garabka ka bilaaw ilaa ay lugta baa maxaa la yiraahdaa email iga odamale laakiin aad maxaa la yiraahdaa dhaawac culus uu ii gaaray lugta kale gacanta kale labada lugood oo qaadi waaye marka aniga ilaahay wuxuu ii riday si waji sida dareemayo oo wajigan dhulka saas ugu haystay lugayga iyo qoorta iyo wax dhan in isku keejureen aan dareemaya laakiin farna waa dhaqaajin waaye alxamdulillah markaas waxa is dhahay maxaa meesha ka dhacay wax dareenkii jugti habeen ma ku jirto Zainab waa soo jeeda shiraa fadhisay habeen ku dhaqsiya badnaaya maskaxdeeda marka waxay u shaqeysay si aan emergency wax kasta igu soo dhacay daqiiqada yar koob minutes kaso ku habeen ma ihid isku meesha shiraa fadhisay waxa isku dayaa inaa dhaqaaqo waaye waxa maqlaaya marka sida meel qof keen ah ama qaabaad ah ku dhex jiro shimbire iyo geedaha dhawaqooda iyo wax saas camala bay dhageygu maqlaayaan oo wax kale maqlaan oo cod sida camala kadib aan dareemay inay wax igu dhaceen laakiin waxay yihiin ma garanayo waale hadalkii ma awoodo inaan hadlo dhaqaaq ma sameyn karo waxaan arkaa anoo la isoo qaaday oo la dhigaayo la iqaadi laayahay la dhigaayo la iqaadi laakiin aan la hadleenin markaas markii dambe sida aan codka meel dheer aan ka maqlaa waxa isoo qaaday gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Shibis walaalkay Maxamed Xasan wiilal yar oo wiilasheeda kamid ah oo soo orday oo meesha markay wax dhaceen soo galo Ilaahay u fududeeyay baa isoo qaado waa dhigaan waa iqaadi waa jaranjartan kulay dareema inay tahay inta aniga wax socdeen ba maxaa la yiraahdaa maxaan waxaa la culays badanida dadka waa ku qaadi laayihiin sidee wax ka yihiin niyada kale yahay niyadeeduna ma kaamil ma wada ahan marka baabuurkayga la soo galiyay baabuurkayga sida mar dambe ogaanay kursigiisa damba la isaaray oo marka baabuurku xoog u socdaaho waan ka dhacaa dhinaca u dhacaa markaas lugta iyo dhinacan dhan iyo waxa jirkayga qof aan dareemeynina ahay alxamdulillah xabad baa socoto marka xabada la rida kaasa waxaan dhahaa xabada iyo ani waa dhintay qof kale xabad ha ku dilinina askarta qofkii la dilo isaga maxaa qof dilo isaga la dili doonaa hadda ani waa dhintay marka hadalkaas ku celcelinaayo iyo shahaad xoogaha waxaan dareemay in aan wax dareemayo isbitaalkana la geeyo kadib haddana ma aqaan sida ahay oo ma qiyaasi karin waxa dhacayo kala dhan lama soconin mar dambe habeen ay tahan arkay in maxaa la yiraahdaa dadka ii imaanayno qol ay joogo oo indhihii aan wax ka arki karin marka alxamdulillah waxay ahayd maalin aad u xanuun badan 25kii baa nalaga qaaday caasimadda naloo qaaday Dooxa ahana la qaaday waxa waaye waxa markaa la ii sheegay habeenkii in saaxiibada qaar ay wada dhinteen maayirka uu dhaawac u yahay haddana dhaawacii maayirka inaan la keen qaaday baan dareemaa hooyadii qeyr badan iyo cimri dheer iyo caafimaad Allah ii siiyo oo waqti badan oo aan dareemay qofka iigu dareenka badnaayna ahayd oo leeyahay ilaahay hooyo cimriga ku dheereeyo
baa waxay ahayd dadkii i raacay oo qadar ii raacay haddana waxaan maxaa la yidhaahdaa xaalad adag kadib iyo rafaad badan qaliin badan howl badan kowdii bisha anoo markaa qaliin kasoo baxay oo isbitaalkii maayarka ICU-gii aan iskula jirnay la iga bixiyay mid kale la ii transfer gareeyay oo qaliinkii aan kasoo baxay recovery roomka aalo baa la igu dhahay maayarkii aa dhintay ma aqaan haddana sidaa noqday cabdixafiid buu ahaa qofkii ila wadaagay familigu way iga qarinayeen alxamdulilah maanta waa noolnahay iyagu way naga hooseeyaan dunidanne markii aan imaanay oo caqliyeysanay baana lagu abaabiyey diinta islaamka oo ku dhalanay dhaqankeedana qaadanay wax walbaahina qadar walbaahi inaa qaadanana ee waajib ay tahay waayo waxaan ahay dad muslima waxaan ahay dad yaqiinsan xaqa waxaan ahay dad mar walbaahi la rabo inay raacaan sunnada waxaan ahay dad mar walbaahi qofka ay ku dayanayaan ama hogaan haddaa tahay lagaa rabo inaa ku dayatid hogaamintaadu ay tahay nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam ma gaarna laakiin waxaan dareemaynaa inay wax walbaahi oo wanaagsan inay halkaa ku taalo kitaabka inaan qaadano sunnada nabigeena raacno marka alxamdulilah waxaan isdareensiiyaa in waxani ay wax la iiga horeeyay ay tahay 100 qofaa kaaga horeysay laakiin dad yay kaaga dambeeyeen taasaa maxaa la yiraahdaa oo aad aan mar walba waqti u geliyaa inuu qof kale dhib ku dhaawacman inuu qof kale qarax uusan arkin inuu qof kale daryeel caafimaad oo dhib badan uusan galin inuu alxamdulilah maanta anaga waxaa helnay service fiican oo maxaa la yiraahdaa naloo gurmaday walow aanan helin 100% caafimaadkaygu markaa wuxuu u baahnaa laakiin waxaa helnay wax dhiig joojina oo adeegyana loo qabto caafimaadaha helnay maalintii aan kusoo laabtay magaalada muqdisho ilaa hadda waxaan marayaa qaliinkii afraad iyo kuwa kale weli iisii diyaarsan oo iisii balansan laakiin maalinba midkii la isdhihi karo hadda waa la samayn karaa oo xaaladda waa la geli karaa intana ay ahaayeen 4 xaalad hore la ii dhahay ma la geli karo 4 qaliina hadda galay qaraxi kadib isbitaalkii qadar oo ama aan ku galo Turki ama aan ku galo Soomaaliya gudaheeda dhamaantood waxay ahaayeen kuwa hore la ii dhahay lagama qaban karo wax kuwa kale badanna waxaan rajeynayaa Ilaahay inuu ii fududeeyo ama Ilaahay uu naga caafiyo waxaas iga daran oo mar walba calool xumo markaa dareemo xanuun markaa dareemo waxaan dareemaa walaalkayga boose oo markuu ay arko wuxuu dhahay Zeynab waxa waaye qofkii aragtida waxa arko qofkii ugu dambeysay waxyaalaha hadana oo aadka maskaxda uu bin aadanka ama maskaxdeena asleeyahay way ugu jirtaa waxay tahay waxaana la yiraahdo waxa idin qarxisa gabar indhala waxa dhibka uu naga soo gaaray oo ugu badan aniga laba shay indhaha iyo neerfayaal labada ugu muhiimsan waay bin aadanku uu ka dhaqdhaqaaqo indhihii oo wax laga arkaayo oo maanta dhan lagu leeyahay birta ma la bixin karo dhalada ama lama bixin karo iyo walaalkay labada indhood bay ever noqdeen markaas waxaan dhahaa qofka dhintuuba dhinta like qofka maanta nool qof indhoolaha ku dila adina waa indha beeshe ama indhaha dhibka qabtaa sidee xanuunkaas ay tahay haddana waxaan dhahnaa waniman yahow yaana loo qaadin dhibaato qofku waa qof kaliya qofkii waa idin qarxiye la yiraahday walow aniga aysan jirin 100% cid ii soo bandhigto ay tiri Zeynab keyskan wuxuu ku bilowday san zad waa kana qofka indhaha la ayo dhamaad idin dilay ma arkin wali laakiin waxa magaalada laga ka maqlaay leh waaye iyada amniga waa is aragnaa saaxiib dhawaa wadanahay igala ma hadlin madaxda qaranka waa is aragnaa saaxiib dhawaa wadanahay igala ma hadlin laakiin waxa rabaa insha Allah in arintan ay noqoto wax la og yahay ani waa dhimanayaa inta hadashana way dhimanaysaa saacaday dhimanayaan laakiin saacada dhimano ilmaheenu waa inay og yihiin wixii nagu dhacay oo hore oo looga sheekeyneenin laakiin inta adduunku hormaree internetka galaan ee dhahaan maanta hooyaday gabadheeda maanta inay dhihi karto hooyaday Zeynab Xabse waqtigaas baa dhibka gaaray sidaan bay daryeel u heshay sidaan baana maxaa la yiraahdaa kiiskeedu uu ku dhamaaday marka qof kasta ahina saasa wanaagsan inuu wax qoro waxna uu diyaariyo noloshiisa ku saabsan waxaan rabaa haduu Ilaahay idmo inaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliyaba qofkii dhib gaaro inuu hadli karo qofkii dhib arkaahay inuu hadli karo dhaqaatiirta ugu badan oo xagga annaga arkeen marmar baa sida u jooga kooma galaaye oo wax xanuuna oo ihaayana laga waanaya maxaa la yiraahdaa baaritaan kasta waxay tahay waxa waaye waa inuu qofka uu u baahan yahay dhaqaatiirtu waxa lagu keenay psychotherapy wax la dhaho
ama dhakhaatiirta psychologiga ama cilmu nafsiga dhakhaatiirta yaqaanaan qofku inuu hadlaayo caafimaada ku jiro wax uu arkay inuu ka hadlo uu sheego wuu nafisaa waa oonaysaa waa xamaasadoonaysaa wax badanaa sameynay caafimaada ku imaanayo laakiin haddaa haysatid wixii aa aragtay cudurkaagi mataqaanid meeluu kaa jiro marka mar kale waxaan leeyahay maalintaa maalin xanuun badaneed 24 juulaay waa maalin aad Soomaali ummadda Soomaaliyeed aad ugu qiimo badan 1 Juulaay waa midnimadeeni waqooyi iyo koonfur calankeeni Soomaaliyeed ee sharafta badan ee mar walba sanad walba xusno aan ku xasuusanayno like iyadoo saas tahay haddana anigu iyo guud ahaan inta ila mid Juulaay waa maalin xasuus murugo leh nagu leh Juulaay ummadda Soomaaliyeed markay faraxsan yihiin farxadda la qaadanayno anigu murugo gooniye ii tahay oo waxaan dareemaa maalintii dhibaataduna soo gaartay maalintii mugdiga aan galnay maalintii tiir adag uu ka baxay qaranka Soomaaliyeed saasay tahayna insha Allah waxaan rajeynayaa sida SYL loo xusaayo waa in dad kale loo xusaa SYL intii ay qabteen way ku mahadsan yihiin imaantana soo gaarsiiyeen jannadina Allah uga waraabiyo waa in la helaa dhibaatada maanta lagu jiro oo dadka Soomaaliyeed iyo dhibaatada ku dhacayso dad kale oo SYL u dhigmo kana badan waa inaan helnaa oo u nataagan qarannimadeena iyo karaamadeena waxaan leeyahay guud ahaan intii nala damqatay intii caafimaadkeena ka fikiraysay intii garab nooga siisay guud ahaantiin jasaakumullah 24 Juulaay marqaatiga nool dhamaantiin waa mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.